dhaxaynka saaran tahay waraaway lama jooga miya war lama jooga miya war soo bata kaalaya saaxiibayaal caawa waxaan ka doodi doonaa insha allah qodobo muhiima oo ku saabsan xaaladda ka taagan gudaha waddanka Soomaalida oo gaadeenaya waxyaabaha la fili karo iyo colaadaha dalka gudihiisa iyo xuduudda indaba ka taagan warcigaa soo jeeda war sheer gareeya saaxiibayaal sheer gareeya waxaa baan falanqayn doonaa xaaladda ka taagan gudaha Soomaalida oo gaadeenaya colaadda xuduudda iyo midda gudaha intaba bismillahir rahmaanir rahiim idinka iska soo badan doona muhiimaduna waxa ay tahay in aan gudbino fariinteena gadaal bay ka daawan doontaa inta aan hadda inala joogin inta joogtana haddayba daawanaysaa marka waxaan jecel lahay in aad gudbisaan fariinteenan jalaale doollo welcome soo dhaweyn wanaagsan master galaal sidoo kale aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa sheer gareeya fariinteena sida ay u gaadho inta aan hadda joogin ee jiifta sida ay u gaadho inta aan friendiska ila ahayn si ay wax uga ogaadaan colaadda ka taagan gudaha ogaadeeniya colaadda ka taagan xuduudaha iyo sababaha waxa keenay iyo waxa lagaga bixi karo shaafi xirsi sidoo kale soo dhaweyn wanaagsan ma sha Allah naciimo dayib calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh xogaa baan isyar update garanhaynaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxyaabihii dhacay falcelintii Somali State eedaha propagandada iyo hurinta colaadda dadka frinjeerku u wada buuxaan dadka masaakiinta aan waxba haysanin iyagoo aad moodo in ay u dhiibahayaan qoryo xabadda ay gelinayaan laakiin dawadii iyo wixii ay markay dhaawacmaan ama dhintaan iyagoo ayna waxba u haynin waxaan jeclaan lahaa markii aynu waxoogaa intayda aan tuurto idinkana bal aragtidiina in aan idinsoo qabto oo hadba waxa aad isleedihiin wuu ugu wanaagsan yahay in aan la wadaagno inta aan hadda inala joogin ama inta jecel inay fikirkeeda gudbiso aan ku horeeyo xaaladihii ugu dambeeyey waddankeena gudihiisa waad la wada socotaan tan iyo intii
TPLF dhacday burburka Ethiopia uu ku yimid uu soo gaadhay Ogaadeniya October 2 ilaa haata waxaa jiray si fiican baynu ola wada soconnaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga maarmaanka inaynu waxoogaa yar ifino waa sheergareeya waxaa ka mid ah xarunta Somali State dhacdooyinkii ka dhacayay iyo ciddii ka dambeysay iyo dagaalada ay qoomiyadda Oromiya ee aan deriska nahay ay ka wadaan gobolka City gobolka Faafan iyo gobolka Liibaan haddii aan dib u milicsano tan iyo inta ay timid xukuumadda Somali State waxay la timid fikir furfurana fikir ka duwan kii hore ee Ethiopia lagu dhaqay ay ugu horeyso in la fasaxay xorriyatul qowlki in dadkii xirxirnaa la soo daayay in gebi ahaanba maamuladii meesha ka jiray xadhiga loo jaro gebi ahaanba xadhiga loo wada jaro dawladdu markay tallaabo qaadayso waxaan filayaa waxana way ku saxsanaan kartaa waxana way ay ku wanaagsanaan kartaa waxana way ku xumaan kartaa madaxweynaha cusub ee hadda yimid waan ku soo qaban doonaa kuwaan soo qaban doonaa laakiin kuwa ma joogto intayda aan tuurta hore marka hore idinkuna waad iga dambeyn doontaan anoo siinaya wiilna qof walba time siinaya aan filayo inuu codkiisa ku gudbsan doono laakiin sheer gareeya dawladdu ninka madaxweyne Cagjar markuu meesha yimid waxyaabo fara badan buu ballan qaaday in uu fulinhayo una fulinhayo si ay cadaalad ku jirto laakiin yuu ahaa isagu nin noocee buu ahaa qaabkee buu markuu ballan qaadayay uu waxaan ku fulinayay Cagjar nin ha ahaado waddanka u dhashay laakiin nin waddanka muddo ka maqan buu ahaa nin aqoon-yahan uu ahaa nin ka soo shaqeynaya hay-adaha caalamiga ah xuquuqul insaanka iyo samafalo ah ayuu ahaa activist ah markii uu yimid waddanka waxa uu yimid waddan run ahaantii 100% zero minus balaayo ku jira waxyaabihii wanaagga ah dadka ula yimid waxay noqdeen dad aan wanaagii garanaynin oo intii la isugu dhiibay balaayo iyo baas madaxa la isu wada geliyay wiil iyo aabihii la isku diray nin iyo siidigii la isku diray nin iyo sodogii la isku diray ay ka dhimatay wanaagii iyo xishoodkii iyo Soomaalinimadii wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh Cabdiraxmaan Aadan ayuu ahaa wuxuu la yimid ee wanaaggaana umuna cuntami karin xilligaas ana waxaan odhan lahaaba waxaa ka wanaagsanay isagoo inuu haaf oga dhigo inuu waxoogaa u yar 100% inuuna odhan free baa tihiin oo idinku waxa caqliyiin inka celiyeen mooyeen waxa kale waxaad tihiin fasax taasi waxa ay keentay in halkii ugu dambeysay ay qolob walba ay istaagto waxaa fiicnayd in step hawshan loo geliyo dadka shacabka si ay ula qabsadaan dimuqraadiyadda iyo nidaamka ka jira meesha hawshii xorriyaddii freega ahayd ee guud waxay keentay halkii ijaabiyaad laga waday positive wanaag laga waday negative waxyaabo fara badan bay keentay soo dhawaada dhammaantiin waa mahadsantihiin mudane Abwaan Maxamed Deeq negative fara badan ayay keentay ama qabiiladii ha noqdeen ama dadkii shacabka ahaa oo moodo qof waliba in uu iskii sida uu doono uu u samaynayo waxaa kale oo aan isleeyahay dawladdu qaladaadka ay xilligaa gashay waxay ahayd gebi ahaanba in maamulkii meesha jiray ninkii hore dictatorkii hore uu ka tegay waxa ay samaysay way xaaqday waddankii marka wuxuu noqday dhanka dhaqaalaha dhanka dhismaha arrimaha bulshada dhanka siyaasadda wax walba zero marka xilliga laga soo kacay xilli kale ay noqonaysaa waxaa uga wanaagsanayd isaga oo isku shaandhayn iyo babedel iyo si waxoogaa ah waxaa taa uga daran markii uu madaxweynuhu
waddankii wuxuu ahaa uu zero ka dhigay ee uu yidhi meel bannaan baan ka bilaabaynaa hay-ad walba dee ma keensanayo dad hawada kama keensanayo dadkii dalka sii joogay ayay noqotay in ay dib loogu celiyo oo hay-adihii iyo xafiisyadii kala duwanaa iyagii dib looga shaqaalaysiiyo yaa la keeni dee waxay noqotay kuwii meesha laga saaray qaybo badan oo ka mid ah in ay soo fadhiistaan miiskii iyagii oo markii loo sheegay dhibaatadii ay geysteen ay yidhiheen annaga waana lagu qasbi jiray waxaanu ahayn dad nadiifa oo kana haddana wixii hore waan bedelayaa marka hawshii waxay noqotay uun ku celi un iyagii markay yidhaahdeen waana la qaldi jiro sidan bay ahayd iyagii baa lagu celiyey howlo fara badan ayaa dowladda seegtay waxaana filayaa waxaa keenayay iyadii oo cusbayd oo nin dhalinyaro ahoo aqoon-yahan meesha uu qabsaday balse uu ku cusbaa istiraatiijiyaddu markii qaatayna ay noqotay mid siday tahay aan u meel marin wanaag bay ahayd laakiin dadka meesha joogay wanaagga dad markaas sida uu yahay oola jaan qaadi kara ma ahayn oo dadka ayaa aada loo fogeeyey xumaanta loogu fogeeyey dhan walba haddii ay noqoto xumaan aada loogu fogeeyey ayaa keentay shacabkeennii in uu garan waayo xorriyatul qowlkii iyo in uu isagu wax qabsado waxaa keeni weyda arrintii raalli ahaada mudane haddii aad aragto adoo raalli ah waa telefoonkan adiga soo wacaysaan life kaga jiraan waad igaga tuurtay marka madaxweyne cagjar iyo maamulkiisii waxaa dhacday in ay kantarooli waayaan dimuqraadiyaddii ay dadka ku fasaxeen waxay taasi keentay dadkii shacabka dhexdiisii inuu dagaal ka biloway waxaan u malaynayaa qof aan facebooka live ka ahayn baa igu ciyaaraya waabad argtaan buu igaga tuuriba haddii aad aragto mudane qofkanow de iyarkaadi aan waxoogaa yar daldalme telefoonka iyarkaadi dimuqraadiyaddii fuulka ahayd ayaa keentay in dadkii shacabka ahaa ay la qabsan waayaan dhexdoodii colaad baa ka bilaabatay dadkii deriska ahaana waxaa iyagana sii socotay colaaddii oo horey gumaysigu u abuuray maamulkii uu madaxweynuhu keenay uu markii hore eryeyna iyaguna waxay noqdeen dad wada handicab oo nooc kale ah dadkii dhalinyarada ahaa ee dalka dibaddiisa la rabay in ay wax ku soo barteen arrintan isbedelka ay ka qayb qaataanna constitutionka Ethiopia ayaa fursad u siin waayey oo iyagiina ku noqday taako oo dadkii uu ku fikirayay ahaa markuu ballanqaadyada sameynayay madaxweyne cagjar markuu ballanqaadyada sameynayay dadku uu ku fikirayay ee aad u lahaa markaa u sabood gareynayay waxaa caqabad ku noqday ama dhib ku noqday nidaamkii Ethiopia haddaa sayno uga gudbi kar aanu soo noqdaan taagaan xaaladii ugu dambeeyay ee maalmahan jigjiga ka dhacayay xaaladaha jigjiga ka dhacayay dadka intooda badan waxaan la soconay tan iyo intii maamulka cusub la magacaabay heer degmo ilaa heer kilal magaalada jigjiga inay ahayd meelihii ugu population badnayd uguna dhibaatada badnayd maamulka loo magacaabayna gaar ahaan laamaha ammaanka aada looga eedsheeganayay waxaa ugu dambeeyey ama mar walba fartu ay ku gudnayd xafiiska madaxtooyada iyo hoggaanka nabadgelyada magaalada jigjiga waxayna labaduba ahaayeen dadkii ku yimid booska deegaanka inay kasoo jeedaan lagu keenay yihiinna dad aqoon-yahan ah oo firfircoon balse waxay noqotay hawshu moodnay noqonsa weyday especially ninka ahaa hoggaanka nabadgelyada ee maalmahan aan maqlaya waa la xidhay waxa uu ahaa ninkii aada mar walba farta ugu godnayd in uu deganaansho la-aanta magaalada jigjiga uu ka dambeeyo ahaana nin inta badan dhalinyaro ah oo xil loo dhiibay oo awoodo fara badan kolley isbidayay gumaysi ku dhex dhashay intii uu ku barbaarayna uu ahaa nidaamkii Ethiopia iyo kala adkaantii iyo cagajugleyntii iyo cabdi ilay qaabkiisii nin la qabsaday ayuu ahaa oo caqlina aan celin haynin aqoonna celin haynin la taliyaal quman oo nabadgelyadana maraa aan lahayn
taasi waxay noqotay in ay jigjiga ka degi weydo maamulkii jigjiga ee caasimada u ahaa Somali State-na uu mar walba noqdo mid hoosta ka haawanaya. haddaba hogaankii la qabtay maalinta dhaweyd ma isagoo keli ku ahayd hawshaasi mise waa laga dambeeyey? waxaan dhihi karaa wiilku sidaa ha ahaado oo mudane xaaji mataan ha noqdo nin iska dhalinyaro ah oo isbidayay in ay shaqayso awood iyo xilka uu iyo darajada uu xambaarsan yahay ha noqoto mid moodayaba ha mid shaqaynaysa, yaase sabab u ahaa in ay heerkaa gaadhsiiso oo tale xumaanta intaa la eg uga dambeeyey. wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa hawshaas qayb weyn ka ahaa qurba joogta. dadka qurba joogta ah ee frijeerku u buuxo ee xaasaskoodii iyo ciyaalkoodii iyo dadkoodii meeshan u joogaan ee raba iyagoo in ay qandaraasyo iyo nidaam iyo baawur meel fog rumuud fog ay kaga hagaan waddanka ayaa ka dambeeyey. waxaad arkaysaan shirarkii lagu qabanayay Mareykanka iyo qaybo ka mid ah Yurub, war saxaafeedyadii soo baxayay qaabkay ahaayeen, dadkii social media qaabka looga hadlayay. waxaa loo hadlayay qaab ka baxsan insaaniyadda, qaab ka baxsan qofka muslimka ah, qaab ka baxsan in dadka walaalaha ah in ay wada noolaadaan, qaab ka baxsan diinta, qaab ka baxsan nidaamka shuruucda u yaala waddanka ayay u hadlayeen. iyagii oo xitaa waddamada ay joogaan haddii lagu qaado sharciyadooda ama waxa sharciga waddankaas u yaala, dadkaasi ay soo bixi lahayn dad dambiilayaal ah, iyaga oo mar walba si cad usoo bandhigaya qaabka wax loo istiraatiijiyadii dadka lagu khaarijin lahaa, dhibaatada lagu samayn lahaa qayb weyn ka qaadanaya. haddaba dadka noocaas ah ee qurbaha jooga ee sidaa u abaabulaya colaada qabiilka ah, ma dad wanaag dadkaas usoo wadaa, ma dadka wanaag usoo wadaa mise waa dad xumaan usoo wada? dadka deegaankuse sidee oola jaan qaadi karaan howlaha noocaas? see looga bixi karaa dhibaatada noocaas? dhibaatada dadka qurbaha jooga ay ka dhex wadaan miye ayna arag dadka xuduudaha dhibaatada ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed? dadka qabiil taargeed garaysanaya ee leh qabiilkaasaa dhibaatadaa wada miyayna arkaynin ama miyaynaba ka fikiraynin dadka xuduudaha ah colaada iyo dhibaatada ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed? tirayarida Soomaalida kala qaybsanaanteeda ay ka qayb qaadanayaan iyaga macno intee la eg baa ugu jira? guulsa intee la eg bay isleeyihiin dadka qabiilka abaabulaya ee dagaalka qaada leh? guul intee la eg bay ka filanayaan in ay dadka shacabka ee jigjiga ku dhaqan xuduudda la wadaagno Oromiya awood intee la eg bay u leeyihiin? maxay iyaguse ku bixin karaan? mudanayaal waa idiin furan yahay khadku, waan idin soo qabanhayaa. colaada noocaasa dadka hurinhaya ee dalka gudihiisa ka hurinhaya, iyadii oo la ogsoon yahay xuduudii in lagu gumaadayo sida gobolka City oo kale, magaalada Diridhabe iyo hareeraheeda, jigjiga duleedkeeda dadkii shacabka ah lagu gumaadayo, liibaan iyo gobolkan xuduudda Oromada leh. aadan maqlahayn cid le war dadkii oo u kaca, war shacabkii oo u kaca, war aynu dadkeena midayno oo aynu dagaalka u gelinno, dagaal gudihiisa aynu ka gudubno oo aynu cadowgeena iska celinno. waa haddii ay tahay cadow. dadka noocaas ah ee qurbaha ku nool aragtidiina ku wajahan ma ku taageersan tihiin? ma ka soo horjeedaan? ma mid ina gaadhsiin kartaa guul? aragtidiinu taas weeyaan. waana idin furan tahay, waanad soo qabsan kartaan, waana sheer garayn kartaan, waana iska dayin kartaan. fikirka barnaamijkeenu halkaas ayuu daaran yahay. waxaa kaloon in yar ku noqonayaa intaad gacanta soo taaganaysaan qof waliba uu fikirkiisa uu ka dhiibanayo. waxaan in yar jecelahay aan ku noqonayo, aan jecelahay in aan si ku daro. waxaa jira dad fara badan oo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya u aanaynhaya in ay waxyaabahan tahay oo
isaga keli inta kusoo koobi karo qofkaasi waxa weeyaan waa xaarwalwaal barfuum lagu shubay. wanaag iyo horumar iyo soomaalinimo ayay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo qof walba oo taageera oo aqoon u leh ay mar walba dadaal ugu jiraan. weligoodna kuma ayna fikirin in ay xumaan ay onolef gudaha ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan Somali State ama ogaadeenaya ay u geysato, bal ee wanaag iyo farxad ayay mar walba diyaar ula tahay. haddaba mudanayaal iyo marwooyin rag iyo dumarba waad ka qayb qaadan kartaan barnaamijkan. sideen ku midayn karaa bulshadeenna, sideynu kaga gudbi karaa dhibaatadan ay qurba joogtu horinayso. qurba joogtanse iyagu ma dadka lagu majees baaba waxaan ay ka tahay marka ay leeyihiin war hebel iyo hebel unbaa u dhigma hebelkii shalay. dadka noocaas ah waxaan filayaa waa ku dibira dhacsasho, waa jees waa dad xumaan uun ugu talagalay. intii xumaydna qurbaha ayaad moodaa inay usoo baxday oo ay dadkoodii ka dambeeyey iyo ummaddii aan waxba aan u qabanhayn. waxaan soo qabanhayaa ninka la yidhaahdo xasan mawliid. xasan mawliid ma soo qabsoomayo. waxaan soo qabanayaa ninka la yidhaahdo galaal sanado horena wuu baloognaa, haddana wuu baloogan yahay. galaal bal halkan aan ka raadiyo sababta keentay inuu baloogno. galaal waa baloogan yahay. muxuu ahaa cabdinaasir. cabdinaasir wuxuu ii baloogaana garanayn marba uu baloogaana kale. galaalow cabdinaasirow waan kaa saaray. waxaa samaysaa mar labaad soo codso. mar labaad soo codso. aniga i soo qabo axmed nuur, adigana waxa uu leeyahay ma soo qaban kartid. no answer buu leeyahay. niyahow ma garanhayo xiladiisa, laakiin noocaas ma samaynayo. master galaal waad mar labaad oo soo codsan kartaa. marka muhiimaddu waxa ay tahay maxaa lagaga gudbi karaa wanaagan la inoo keenay ee xagga rabbaaniga ka yimid. dadka shacabka ah eed moodo in ay u arkaan dhibaato, gaar ahaan dadka qurba joogta ee wanaaggii ummaddu ay heshay dhibaatada ku ah. maxaa lagaga gudbi karaa? fikirkiinu wuu idiin furan yahay. qodobkana waad aragtaa ciwaanka. waa mahadsan tahay. waad soo qabtay axmed nuur waad soo qabtay. marka qodobka doodu waxa yahay assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waad aragtaa qodobka dooda waana ku soo dhaweynayaa. xaaladuna waxay tahay shacabka Soomaalida ogaadeenaya waxa uu helay jaanis wanaagsan. dal iyo dibadba aad iyo aad baa loogu farxay. waxaa jirta isku guuritaan baa jira ummadaha horey noo guumaysanayay eenu deriska la nahay iyo inagu qofba qof buu rabaa in uu ku guuro. waxay hawshu u eg tahay ninkii haadka daya ayuu ku dhacayaa. aad iyo aadna waa la isu sirayaa. qof kaluu isleeyahay kaga bax shidaaladan iyo istabargoyntan Ethiopia. innaguna Soomaalidu way isku dhex fooftay. maxaa aragtidaada?
نيو وفكر في عن أصلا عمون كسلامية سكري لابن كسلامية تكوبات tan labaad waa fikir fiican waan aaminsanahay in waqti la geliyo oo laga hadlo oo doodo iyo naqash laga sameeyo xaaladda hadda maanta deegaanka ku jiro horta niyow dee waxay carabta waxay ku maahdaa alcunfu yulad alcunf mushkiladu waxay dhashaa mushkilad deegaankan dhowr labaatan sana oo xoogaa yeelan dadkani waa ina arag dowladnimo iyo dimuqraadiyad iyo wada noolaansho midna minahay xoog baa lagu hayay xoogga markii lagu hayay nidaam xooggii nidaamkii xoog ku hayay uu ka baxay dowladdana waxaad moodaa inay ka dhigtay wixii oo inaynan dadaan u diyaar garaysnayn inay wada noolaansho iyo dimuqraadiyad iyo kala aragti duwanaan iyo afkaar kala gedsan oo wada ayna arag inay qaadan layihiin baad moodaa taasina waxay keentay mushkilad dadkan isku dhexyaacaan cid walbana ay ka faa'iidaysato waxaa loo baahan yahay marka dowladdu inay go'aan qaadato oo wixii mushkilada dhexdeena ay iyadu go'aan iyo awood ay ku muqoonayso ay xaliso wixii loolan ah ee dibadda aan loo daayo ururada siyaasiga iyo dowladda iyo kolba wixii cidii siyaasadda loo daayo laakiin dee inaan maanta aan isku deegaanka isku dhex mashquulo weliba meeshii caasimadda u ahayd ay maalin walba dhalinyartii iyo dadkii isku dhex yaacaan oo maalinba wiil la dilo oo dad dana gaara leh iyo afkaar gurracan ay ka dambayso ay shacabkii la adeegsado waayaan daro dowladdina ay gamcaha ka laabanayso marka dee anu waxaan u arkaa inay dowladdu ay jaleec muujin hayso waayo way fiican tahay iyana kaa dhexgalay dowladdani sida la sheegay waxayba ka bixi laadahay iyadii oo wanaag mar walba ka talinaysa haddana magtii reeraha islaayay oo qolo waliba maalin walba ay odhanaysa anigana qof baa nalaga dilay magtanadii dowladdan u haysanaaye dowladdii ee magtiina siiya marka waa dhibaatooyin fara badan marka inay xitaa magta la bixiyo oo dadkii shacabka dhexdooda la soo jilciyo aragtidaas seed aragtaa niyo anu aragtay waxaan arkaa wax ku mahdaa salaad walba say ku qabsataa loo tukadaa anu uma arka hadda inay magtaasi hadda mid saxa tahay mid hadda in lasoo qufo oo mag iyo wixii dhacay laga maxaan ku dhahay laga daba tago aan waxaan arkaa inay fashil keenayso waxaa la yidhaahdaa tagtaka kale timaado qabo xaaladdu hadda waxay u baahan tahay wejiga cusub in laga jaanqaado oo maaragtay isbeddelka cusub la wajaho haddii laakiin dib loo noqdo oo xisaabin dambe iyo isku mashquul iyo ma kala qadasho iyo sheegasho laga bixi waayo wixii ha taagnaa baa ku seegaya marka wixii aad soo dhaaftay ha ku mashquulin si waxa ka horeeya aadan u seegin waxa ka horeeyana ha ku mashquulin si waxa taagan aadan una ku dhaafin marka waxa weeye inaynu hadda ku fikirno waxa taagan inuu ka faa'iidaysano waxa soo socdana aynu u tabdaysanay ahayd laakiin wixii la soo dhaafay in lagu noqdo aan waxaan aaminsanahay inay dhib tahay waa sax dadkii dhibanayaasha iyo qofkii dambi galay in wax laga qabto laakiin ma aha xilligii waxaan taaganahay xilli kala guur ah oo xaaladdu ay maaragtay aad u kacsan tahay oo mawjado iyo bada ay socdaan ma haddaad in yar gaarigaad ka degto ay kula tegayso marka waxaan aaminsanahay dowladdu hadda mawduuca inay furto iyo waxba inay tahay mid ku keeni karta fashil tan kale de dowladdu ilkiya runba waa la caddeeyaa waxaa loo baahan yahay dhibkan dadka wada iyo cidda wada in la caddeeyo ujeedada ka dambaysa iyo rabitaanka la leeyahay in la caddeeyo haddii magacan ajnabiba yaa meel soo dhex marayso oo waa wara astar ba laga hagayaa ma dad in deegaankii ku dhex jiro oo dana gaara laba wixii in la caddeeyana waa loo baahan yahay laakiin in la ishuursanaado oo haddana mushkiladii marka dambe way xadkay dhaafaysaa marka wax walba xad buu leeyahay in la qabto waxaan aaminsanahay dowladdu inay ka gaaban hayso roolkii ku wajahnaa xilligan ee loo baahnaa oo ay ku mashquulsan tahay maslaxa ka talin iyo insaaniyad wax hore dhacay iyo xuquuq dad la laayay iyo mudane axmed nuur miyaan la odhan karin dowladda waxeedu waaba taakarooni markii ugu horreysay muddo kooban bay jirtay markii ugu horreysayna waxay fidisay free speech ama xorriyatul qowl ama qof waliba sida uu doono dadkii shacabkaana way garan waayeen wixii iyaga isku bilaabay iyaga iswada eriyay midba mid qaniinay iyagana iyagiis cunayaaba magtoodii iyo kala qabashadoodii iyo nidaamkoodii ku mashquulsan tahay marka miyaaba la odhan karin dowladdan cusbayd ee dhowrka bilood joogtay waxeedu waaba taakarooni mar haddii ay kala qabanayso hadda oo ayna iskaga dhex yaacin niyo dowladda way dadaalaysaa laakiin anugu ma aaminsan inay taakarooni ay qabanayso الغاية تبرر وسيلة marka waxa weeye markaad hadaf leedahay hadafkaasi inaad gaadhaa muhiim ah inaadan gaadhin
wax walba oo aslada hadafka uu kaasoo ka dhigayaa uu dhib buu ku keensanayaa waa sax inay dowladdu maaragtay ay wanaag muujinayso dad kala qabanayso laakiin waxaa loo baahnaa Soomaalida waxa ku madaan fadhiida kacda iyo fooqor dhagtay way foona kaxan dadkani dad la xasuuqay oo islaayay oo isu cuqtadaysan oo maaragtay aad u baaba'ay bay ahaayeen haddii marka mawduuca la fur laga log bixi maayo laakiin waxay ahayd in maaragtay midho barda duduubka lagu liqaa laga dhigo oo shacabkii wixii soo maray la duduubo oo xaaladii si guud loo wajaho oo la saabeeyo oo maaragtay aan laga dhigin free speech-kan maaragtay boqolkiiba boqola laga dhimo oo maaragtay dadka dhibka ku wada laga qabto oo bulshadii la xanaaneeyo markuu shimbirtu markay ay yar tahay baad u soo baxin ma duuli karto waxa weeye shacabkan baad ma laha maskax uu ku qaato ma laha dimuqraadiyad intaa leeg wuxuu u baahan yahay in maaragtay tartiib maaragtay waxan ay salaanka ula soo qabsadaan laakiin qofka talaabarada orod ka doonto waa qalad waxaan aaminsanahay dadkani uma diyaarsana inay qaataan dimuqraadiyad boqolkiiba boqol dadkani waxay u baahan yihiin nafis in la siiyo oo aan lagu ciriiriyin xayaatada oo ganacsiga iyo nolosha iyo xirka iyo xasuuqa laga daayo cunaqabato laga fudaydiyo laakiin la ilaaliyo oo la kakabo oo dadka la soo keeno soo dhaweeyo laakiin de bulsho markii horeba aad isugu cuqtaysan dad firi ka dhigto tan walba wixii ku jiray soo butaacaya marka waxa weeyaan waxaan aaminsanahay inay firiijkan maaragtay laga dhigay firigan dadka laga dhigay la yidhi walba saarato hadal inuu dhib keenayba waxaa jirtay berigii hore qurba joog xilligii uu maamulkii hore TPLF iyo cabdi inay joogeen dadka qurbaha ku dhaqan waxay u sacabtimi jireen nidaamkii ka jiray jigjiga TPLF hormoodka u ahayd cabdi ilayna usha u ahaa si fiican bay ula jaan qaadayeen way u sacabatubi jireen dalxiis baa loo tegi jiray dadka shacabka xaqiisa waa la qarin jiray biyaa laga dhargay caanaa laga dhargay tuubooyin baa loo furay wadooyin dhaadheer baa loo sameeyey haba yaraate ee wax dhibaato ahoo waddankaasi ka jirana ma jirta la dhihi jiray sida USA ayoo kale ayuu waddanku u dhisan yahay qaabkaasoo kale ayay u fikri jireen ama dadka shacabkaha ay xaqooda u duudsii jireen maantana waxa ay bilaabeen ree hebel baa ree hebel ku fadhiya ree hebel baa ree hebel loqojopaaday ree hebel baa ree hebel xaqiisii horena u duudsii jiray haddana u duudsii jiray qorya qaata hubka qaata war ragga iska dhiciyaay marka dadkan qurba joogta ah dhibaatada noocaas ah wada qaabkee iyaga maxaa lagu tilmaami karaa waxooda soo dad ilbaxay oo waddan hormar maxay yihiin dadkani yo wallahi waxa weeyaan horta qofku markuuna wax hadaf ah iyo wax rool u deganayn uu rabo inuu ismuujiyo ama uu xoog ku soo caanbaxo ama uu wax qaso wax markaa sharciyada ama qaanuuna ama maaragtay insaaniyada ama dadnimo qabana inay jirto wax rabu iskaga hadli waxaa la yidhahdaa luqada carabiga waxaa dhahaa taariikh limada yudras taariikh litikraariha taariikhda maxaa loo bartaa baa la yidhi si ay maxaa laga faa'iidaa barashadeeda oo ahlay waa soo noqoshadeeda loo ilahay inay soo noqonayso oo wixii dhacay u biri dhici doona ayaa laga faa'iidaa waxa weeye horta raggan inta badan hadda horboodaya mashaakisha lagu tumaynayo horboodayaan shirka qabanaya qabaylada abulay horta waxay ahaan raggii cabdi aadka u horboodi jiray waxyaabaha hadda aan dawladda aan ku dhaleeshanay waxa weeye nidaamkii hore inay ka dhigtay hilibkana ma cuno foodkiisana waan cabaa dadkii dambiilayaasha ahaa ee dambiga garbaha u ahaa baadasha u ahaa waa halgamayaal dadka waxa suuq jiray ee lacagaha ku bixin jiray u sabood garin jiray garoomada laabta ku qali jiray ee adduunka u muujin jiray ee maaragtay cabdi taageeri jiray waa halgamayaal cabdina waa dambiile anigu waxaan aaminsanahay inay tahay hilibkana ma cuno maraqiisana waan cabaa waxyaabaha aan dawladda ku dhaleysanahay ka mid tahay oo ama kuwa gudaha jooga ha noqoto ama kuwa qurbaha jooga ha noqoto cabdi garbihiisii ay ku kacay dawladdii cabdi ay ku kacaysay maanta inay iska dhigaan iyagu halgamayaal iyo rag maaragtay soo halgamay oo ay iyagu ay maanta ay dadkii kale usii halilaan waxaan aaminsanahay inay dhibkaas oo inay tahay dhalilaha dawladdu leedahay waxaa kaloo dhalilaha leh haddii aan halkan kaa dhex galo adoo raalin yar haddii aan kaa dhex galo nidaamka constitutionka Ethiopia ayaa waxa uu qeexayaa qofku aqoonyahan nooc doonaya hada haddii uu wato dhalasho waddan kale in uuna dalka waxba ka qaban karin dalkana waxaa joogay dadka ugu badnaayay waddanka joogay cabdi ilay bay la shaqaysan jireen si dooni ha kula shaqaysteen marka dad kale
dibad miyaa laga keeni karaa oo isagii waaba la keenay iyagiina sharci baa lagu qabtay marka nidaamkaas miyaan la odhan karin dawladdu gar bay u leedahay in ay siday doonto ugu galgalo yaa ay iska riixato niyow dawladdu taa gar kuma lehe dawladdu gar waxay ku leedahay waxna waa shaqaale hoosaad iyo dadkii maaragtay dhalinyartii iyo shacabkii caadiga ahaa isagu kolba dhankii loo wajahay iska raacaya maslaxadiisa dhowranayay waxna waa rumuustii iyo dadkii hormuudka u ahaa ama qurbo joog ha noqdaan ama qolqol joog waxa loo yaqaan ha noqdaan golihii dhexe amniyaadkii dawladdii maaragtay saraakiishiisa sare new boolista raggii wasiirada kasoo noqday dawladda raggii hoggaanka nabadgelyada kasoo noqday raggii booliska soo hayay raggii maaragtay xisbiga kusoo jiray raggii noocaas ahaa ma aha inay maanta ay yihiin iyagu in dad badil lama waayin anusaan aaminsanahay 100 baa jirtay waddankii gudihiisa joogtay oo aanan ka qayb qaadanin oo aqoona leh kartay dadka hogaamiya waad ogtahay 20 sano u dambeysay waddankeena waxaa ka shaqaynayay dadka ka yar 40 dadka yar baa ka shaqaynayay oo dhalinyar ah oo ahayd dad yasman ah loogu talagalay inay noqdaan baa ka shaqaynayay dadkii wixii xilliga ka waaweynaa ee dawladihii hore kasoo shaqeeyay kama way aragsanaha ama ka dambeeyay aqoon-yahanka ee xilliga iyagu aan dhig jimcaha kula gelin baa badan baa jooga laakiin xataa laanka dawladdii waxaa ka dhex muuqata dambiilayaal baa ka dhex muuqda waxaa ka dhex muuqda saraakiish baa ka dhex muuqata waxaa ka dhex muuqda hoggaanka nabadgelyada ka dhex muuqda waxaa ka dhex muuqda odayaashii maaragtay caytami jiray ee sabood garayn jiray ee adduunka ka gadi jiray dawladda ee midiyaha ka muuqan jiray baa haddana ka dhex muuqda oo haddana maantana sabood garanaya marka wixiiba wuxuu noqday uun dee waxa dawladdii horaan dembigii baa la galay haddana kuwii dembiga galay qaybna waa la fogeynaya qaybna waa soo dhaweynaya anuu horta aad uma garaysanin meesha wax badan baa ku dhex jira aniga shakhsiyan ishkaaliyad badan baa meeshaan ka qabaa tan kale shacabkii oo arka ninkii shalay dhibayay oo haddana maanta halgame iska dhigaya shacabkii oo aad moodid inay maaragtay aynan la isticmaalayo oo aan lahayn tawajuh siyaasi iyo meel ay u jeedsan aan lahayn oo isku dhex mashquulay waxaad moodaa dawladdii inaynan tallaabadii hadda loo baahnaa iyadu waan dareemayaa inay xukuumadda dadka hormuudka u ahaya qalbi wanaag muujinayaan laakiin qalbi wanaagaas ma aha kii hadda loo baahnaayo waxaa loo baahnaa inaad caziimad iyo go'aan la yimaadaan oo ay dadka ku hogaamiyaan sida ay ku sax tahay in lagu hogaamiye ahaa in dadkan kolba wixii danta ugu jirta lagu hogaamiyo laakiin haddiiba dimuqraadiyaddu aynan maslaxa ugu jirin dimuqraadiyadda ay keenaysa fawdo iyo burbur ay keenaysa dee waa in laga qabo dimuqraadiyadda laga hor istaaga laakiin nafta ibni aadanka wixii aan ka ahayn ee dadkan lagu badbaadin kara waa in lagu badbaadiyo laakiin anu ma qabo dadkan iska qoryaha tuuraya ee lasoo diraya ee qaylaya ee wax walba samaynayaan waxaan aaminsanay meesha inay keenayso marka dambe inay dhiig daato cabdi ismooge waxa uu yidhi assalaamu calaykum wixii dhacay dhaqso looma sixi karo suldaan ramo waxa uu yidhi in xagjar uu ku fashilmay xilkuu qaaday waa mahadsantihiin kelimada ugu dambaysa mudane qurba joogta burarka wadata ee dabka iyagu la dul taagan taraqa iyo gaaska iyagu xitaa bela hadday dhacdo aan halkaas usoo dhaafaynin iyaguna shidaya waxaan maxaad odhan lahayd qurba joogta waxaan odhan lahaa horta kow ilaahay ha laga boqo ilaahay ha laga boqo ilaahay dadkana ha looga boqo waa taas ragga qurba joogta ah maraykan iyo yurub iyo australia iyo canada ku nool ee iska raaxaysan haya ee nabadda haysta ee iyagu baasaboorada kala wata shacabkan masaakiinta ee 20 sano lasoo xasuuqayeen isku dirin yeenan maaragtay u adeegsanin dana siyaasada yeenan iyagoo shaqsi nacayb ama urur nacayb ama reer nacayb ka duulayeen ummadda isku jabinin dhiigiyuna daadanin xaaladdu sidan way ka adkaan doontaa beri farta dhexda laga cuni doonaa quruxdaas iyo jigjigada caasimadda ee lagu naloonhayo iyo nabadgelyadaasi way ka bixi doontaa naxabaddu nin gaara ma karto nabadgelyadu nin gaara uma darno bahasha haddii waagi hore etoobiya mucaarabata la isku ergan jiray hadda nin walba etoobiya mucaaraya maxamed ba hadda gudihi etoobiya la wada joogaa in hebel iyo in hebel baan u kala bixi doonaa haddii ay sii socoto reer hebel loo kala bixi doonaa reer hebel kama adko xaaladdu sidan way ka staraan doontaa waxaan aaminsanahay hadday goor tahay xaaladda ha la dejiyo mushkiladda bulshada ha laga dhaafo shacabkan la isku dirayo ee la adeegsanhayo ha laga joojiyo wuxuu yidhi ka darbay dhashaa hadday burar kuu ruruqeen oo is leedahay waxaad gaadhay guulo haddana kuwo kale sii gaadh inay ka dar dhashay u badan tahay hadda ka dambe waayo wax walba oo xadkiisa dhaafa wuxuu noqdaa mushkilad waxaad moodaa qurba joogtu inay xadkoodii dhaafeen
wixii loogu talagalay inay ka gudbeen mushkilad bayna keeni doontaa haddii aan qadiyadda laga waantoomin waxaan usoo jeedin lahaa aqoon-yahanka waxgaradka saxaafadda culimada dadka halu xilli war caqdiga inay qadiyadda ka hortagaan oo anu waxaa ii muuqata inay mushkiladani ay keensan doonto inuu dhiig daato in maaragtay naf badanoo maanta nool lagu waayo in rag badanoo maanta nool ay lagu waayo marka xaaladaas intaana dhicin in laga hortago ayaan codsan lahaa waad mahadsantahay waan ka bax ayaad wada mahadsantahay intaada ka bixin waxaan jeclaan lahaa bal in aad iyadana aan laba su-aalood oo kale aan ku weydiiyo mid waa mid ku saabsan maxaa la gudboon ururka ONLF dad fara badan waxay aaminsan yihiin in Ethiopia ay kaga adkaan weyday ONLF dagaal haddana isku dayayso in ay nabad kaga adkaato oo dhaqaale iyo xilal iyo waxyaabo fara badan ay isku daydo in ay ku sasabto ONLFna waxay aaminsan tahay in ay da'deeda jirto oo ka weynaatay waxa ay Ethiopia ku sasabhayso adi aragti ahaan maxay kula tahay wallahi horta waxaa la yiraahdaa dagaalka qoriga marna waa lagu liiciyaa marna waxbaad liicaysaa laakiin oo mar badan baad taariikhdaa oo yani dadaashaa laakiin dagaalka siyaasiga saacad ba lagaga adkaadaa dagaalku hadduu siyaasi noqdo wuuna guul dhow yahay wuuna khasaare dhow yahay labadaba wuu dhow yahay ONLF waxaan horta u sheegi lahaa dagaalkii ay ku jireen mid ka khatarsan bay waajaheen oo ahaa mid qalin ah waa wax maaragtay qalin afkay soo gaadhay oo maaragtay saacad hadafkaagi lagu gedi karo ama wax yar oo qalad oo kaa dhacay aad maaragtay aad mustaqbalka saameyn kugu yeelan kara marka dagaalka siyaasiga wuuna ka guul dhow yahay wuuna ka khasaare dhow yahay dagaalka qoriga ah marka ONLF inay taxadar fara badan iyo isku xidhnaan badan iyo isufnaan badan iyo dabagal badan iyo indhayn fara badan digtooni aad u badan iyo fidhoon inay muujiso horta iyada looga baahan yahay Ethiopia dee kolley waa raga is hayaan ninkaas haysaana dee ma oran mayno ONLF u turmidna oran mayno laakiin cidda looga baahan yahay inay loolankii ku ka fara badan oo ka firfircoon oo ka urursan oo ka indheer garadsan oo ka gogol badan oo ka waaya aragnimo badan ay dagaalkii ku hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto qalin hadday noqoto isku xidhnaansho kii ku ka badan in iyagaa looga baahan yahay inay la yimaadaan inaan iyaga la kala shaxaadin inaan shacabkooda laga horkeenin inay mushkiladaha dhici ama xubnaha ONLF ama ha noqoto kawaadir ama ciidaha noqoto ama siyaasi ha noqoto waxyaabaha dabka hadda loo hornayo in iyaga daatu indirect ahaan loo soo weerarayo oo maaragtay marmarsiyan loo raadiyaa suurtagala marka inay waxyaabahaasna ka fiidhoonaadaan mashaakisha iyo waxyaabaha dhacaya iyo dabeelaha socda inay aad uga digtoonaadaan ka ururahaana iyagu isu ururiyaan hadday dhexgalayaanna inay u dhexgalaan si urur siyaasi ah laakiin yani iyaga marnaba loogu eedaynin khalkhaloo dhaca aad bay u habboon tahay inay dulqaad aad u fara badan muujiyaan wacyigelin fara badan muujiyaan baa loo baahan yahay haddii xataa ay isticmaalayaan inay wax kala dhex galaan inay dad kale ka dhex hadlaan baa loo baahan laakiin ONLF qoryo badan baa lagu raadsanayaa burush xaala lala daba socdaa haddii ay aad uga dhugto ay isu ilaalin weydo waxaa dhacaya inay maaragtay bulshada laga horkeeno in marmarsiyan loo raadiyo in mushkilad dhacdo iyaga loo xambaariyo dadkii in maaragtay laga horkeeno in maaragtay qabiil lagu shaabadeeyo waxyaaba badan baa ayaa laga yaabaa marka yeelan wax walba oo dhacay yeelan jabhadu isku day in iyadu mas'uuliyadda qaado ama ay xalliso iyadoo ka urur siyaasi ahaan oo hadafkeedii guud ha ku taagnaato mashaakisha hoosana ha u dayso odayaal dhaqameedka iyo maaragtay maamulka meesha ka jira ha u dayso iyaduna hadafkeedii iyo abaabulkeedii iyo nidaamkeedii dhan ha ka wadato iyadu ka urur ahaan hadafkeedii ha ku taagnaato laakiin hadda isku daydo wax walba inay ka odayeyso dee waxaa noqonaysa in tumaad ba meesha oo dhex gasho iyagii la eedeeyo shacabka laga horkeeno dee marka loo raadiyo mamarsiyo marka iyaga lagu weeraro marka dambe aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane kaaga mahad celinaa fikirkaaga wanaagsan daawadayaal waxa uu ahaa aqoonyahan axmed nuur sheekh cabdiraxmaan sheekh ismaaciil dubed oo ka mid ahaa ka qayb qaatayaasha fikirkiisa wanaagsan iyo booyntiyadii dhaxalgalka ah ee uu u soo jeediyey guud ahaan shacabka Somali State gaar ahaan
ONLF oo uu ku tilmaamay iyadu in ay ka khatara badan tahay xilligii hore saacadna laga adkaan karo saacadna ay ku adkaan karto muhiimadda iyo guushuna ay tahay meel walba in ay ku gasho urursanaan. waxaa kale oo uu sidoo kale uu u soo jeediyey fariin dadka iyagoo qurbaha jooga ee burushka aan wanaagsanayn dadka shacabka iyagu la dhex ordaya kuna kala dilahaya. aadna waa u mahadsantihiin. waxaan haddana soo qabanayaa shukri nuur baan soo qabanayaa. ogaadeen life to lifena life to ogaadeen adigana waad ku xigi doontaa insha allah. marka fikirkiinu ha koobnaada insha allah. sida axmed nuur oo kale waa aad jaanis fara badan baan siiyey. marka tobigana waad aragtaan waanad ku darsan kartaan xaaladaha ka jira. shukri nuur waan kusoo qabtay. marka waxaan rajaynayaa in fikirkaana noqdo insha allah mid positive ah oo dadka shacabka ah ee ku daawanaya uu ka faa'iido. waad maqashaa baan filayaa shukri nuur. aad iyo aad baan walaala ku maqlaa waana ku salaamay adigee ninkaba aad baa ii dhegaysanayay barnaamijka haddaad dihinaysana aad baan usoo dhaweynaynaada. bal adi hadda aragtidaada maxaad barnaamijkan aad odhan lahayd weliba adiga oo haye ku soco adigoo hi shukri waan ku maqlaa. walaale barnaamijkayga aad daadiinayso aad baan ugu dhowahay macsuumaadaad ii fadhiisanaya aad baan kaaga ajiibay. inaad mid baan ku weydiinayaa 2 su'aalood baan ku weydiinayaa. dhibkii dhacay iyo dhibaatadii dadka loo geystay yaa xaq laga rabaa ama inay dadkii dhibkii dhacay loo geystay inay magdhow yaa laga rabaa ma ONLF baa laga rabaa mise dowladda Ethiopia ama dadka deegaanka Soomaali galbeed u dhashay baa laga rabaa? su'aal baan ku weydiinayaa. qurbo joog yaa ah qurbo joog adoo iga may walaal waa sax weeyaan waana ku faraxsanahay xitaa welina waa 2 inaad 5 iga dhigtidna waan jeclaan lahaa. laakiin markaan su'aasha aan ka jawaabo kulle waxaa laga yaabaa adu sida aad jeceshahay inaan uga jawaabin balse si ay aniga jawaabtay u noqoto intaad u tixgelisid aad kasii socoto oo tixigta aad i weydiiso adiga inaad weriyo noqonayso. aad baad mahadsantahay. niyahow yaa xaq la siinayaa aan ku siiyo inaad kugu tixgelinayaa jawaabtaada iyo fikirman isweydaarsanayna inaad arhay wax dhiba meesha ma dhex yaalo. waxa weeyaan niyahow aniga haddii aan su'aasha ka jawaabo yaa xaq la siinayaa ma ONLF baa xaqa siin yaa dadkii shacabka ahaa magdhow siinaysa mise Ethiopia? waxaan anigu aan leeyahay Ethiopia saas oo maynayn horta. haa dadkii deegaanka dhibka ka soo gaadhay magdhow yeekaad in yaraan ku faahfaahiya inaad raallahow inaad arhay. go ahead. dadkii deegaanka ka soo gaadhay dhibka magdhow yee ka rabaan? ikaadi dhibka yaa gaarsiiyey ma ONLF gaarsiisay mise dowladda Ethiopia gaarsiisay in la isweydiiyaa taana mudan. waa good ma ku socdaa marka may su'aalka tii un bay isdaba socotaa. dad baa aaminsan Ethiopia inay dhibka gaarsiisay dadna maxay aaminsan yihiin inay ONLF dhibka geysatay. dadna ONLF inay dhibka gaarsiisay yay aaminsan yihiin. koodee mag bixinaya keeda magdhow bixinaya keeda dhibka gaarsiiyey marka iga jawaab. su'aalay adiga kugu soo noqon doonaa kuwa aan ku weydiin doonaa insha allah xagga rabbi hadday ka noqoto. laakiin waxaan isku dayay inaan ka jawaabo. waa kow horta ONLF waa ayo ma dad dalka dibaddiisa ka yimid oon deegaanka u dhalaninba ma qabiilo intay shireen
yidhi aynu noqono gruubka onlf la yidhaahdaa mise waa dhalinyaro nin walba meel intuu ka yimid arrin la qurux badnaatay arrinkaasina uu ahaa difaaca dalka iyo diinta yaase mushahar ku siin jiray oo raggan dhalinyarada ah ee nin walba reerkoodii ama xaafadoodii ama jeel uu ku jiray intuu soo baxsaday uu baahi iyo orod iyo rafaad uu qori ku helay Ethiopia kala hortagay anigu waxaan aaminsanahay walaalow aragtidayda oo NLF in ay ahayd dad isdifaacayay dhalinyaro isdifaacaysay oo dalkooda iyo dadkooda iyagii oon is aqoonin ninba meel duruufi ka soo eriday ninba qaab uu ku helay wuxuu isku difaaci lahaa oo isaguna isku difaaci lahaa ee uu naftiisa iyo maalkiisaba intaba uu ugu hurlaa laftiisa iyo ehelkiisa iyo dadkiisa inuu ku difaaco marka maanta aniga oo naf iyo maalba u huray in aan difaaco laftayda iyo naftayda iyo dalkayga iyo dadkayga kana difaaco gumaysiga Ethiopia in aan anigu ama hooyaday ama walaalkay inaan idhaahdo waan ku dilahay mag baan ku siinayaa in ayna xaq ahayn baan aaminsanahay xaqa haddii arrintu ay noqonayso in shacabkeena xaq la siiyo dadka noogu yimid waddankeennii dadka xasuuqa geystay dadka dhibaato ku yar iyo weynba u geysatay dalkeenna waxa weeyaan waa Ethiopia oo ka timid buuraha oo diin naga dhaxaynin siyaasad naga dhaxaynin dhul naga dhaxaynin dharra aana isku si u xidhanin dagaalada xasuuqa shacabkeena ku dhacay cidii ku dhacaysay ee u geysanaysayna Ethiopia ayay ahayd wiil ka yimid buuraleyda Ethiopia ayuu ahaa ama Orom ha noqdo ama Amxaar ha noqdo markii aan meel iska marin wan yar aan kugu daro markii Ethiopia laga adkaaday dagaalkii laga adkaaday ee khayraadkii iyo shidaalkii ay rabtay inay soo saarato ay beesha caalamka ugu been sheegaysa markii dhuunta la qabtay waxa ay go'aansatay beesha caalamkana ay ka codsatay dawladda welina ay Britain ka mid ahayd sidii ay dadkeena shacabka isugu hubayn lahayd dadkeenii shacabka ahaa ay gaajadu haysay ay dhibaatadu haysay ayaa waxay samaysay markii dambe ciidan liyu boolis la yiraahdo oo dhalinyaroodii darbijiifka u badnayd in ay dhaqaale siiso ka bacdina ay sidaa u soo abaabusho ay jabhadii duurkeeda ku jirtay ay sidaa dagaalka ugu soo qaado marka cidda laga rabo in ay magdhow siiso dadkeena shacabka ah ee xasuuqday ee maanta kaliya inta magdhowga ma rabno onlf 1984 bay timid waxaan ka rabnaa tan iyo xilligii 1954 xasuuqii bilowday ilaa xilligan aynu maanta ku jirro waxa aynu ka rabnaa Ethiopia magdhow marka waxay arrintu taallay haday onlf ba aad adigu xaggan ugu leexisid 94 wixii ka dambeeyay ayuu onlf duurka gashay magtaynu rabna ma intaasunba mise 200 muddo 200 sano ku dhow wixii inagu dhacay ayaynu magteeda rabnaa anu waxaan aaminsanahay waa Ethiopia mana aha 94 wixii ka dambeeyay xaqaynu rabnaa ilaa 1954 baan rabnaa magteeda su'aashii kale maxay marka waan kugu laabanaya su'aasha kale waa ku diyaarinaadeere dadku inay fikirkeena iyo aragtideena iyo fikirkan anigu urka onlf ka qabo iyo mujamhadda xoreynta ogaadan iyo fikirkan ka qabaan halkan ka cabiraya cabiro samada garan banaha iskula reeban وماي وحا اسكول ريبان سي قف عاي هايغا دين وحا اسكول ريبان هاي دي ما ورا حر بعضو تahay inoo dedejiyo insha Allah hawan ku dedejinaya in aadare en 93 ilaa 2000 iyo kowdii mehed dibkii soo gaaray deegaanka Soomaalida Ethiopia ama ogaadin iyo dhashay Ethiopia ya u geysatay taas waan ku qiraya dibkii ka soo dhacay ilaa 2000 iyo
ilaa 2000 iyo maanta 2018 maanta ay tahay dhib badan oo on alaf jamhadda xoreynta ogaadenya ragga sheegta dhib badan oo geysteen baa jira agoommo ay sameeyeen baa jira rajooyin ay sameeyeen baa jira oo caddahay waxaan iska qaranayna ma aha anigu fikir ahaanteyda iyo arag ahaanteyda dhib badan oo geysteen baa jira magdhowgii on alaf annagu haddaan nahay dadka u dhashay ogaadenya ama soomaali galbeed magdhow baan oga fadhinaa magdhow badan baan oga fadhinaa jamhadda xoreynta ogaadenya ragga sheeganaya inkastoon loo sinnayn oo soomaali aynu u sinnayn anigu fikirkaasaan aaminsanahay mid baan kaaga soo gudbayaa intaad su-aasha waad weydiin doontaa laakiin aniga su-aalkaa weydiinaya dadkana chance baan jeclaan lahaa in aynu siino mudane shukri nuur ONLF waxaa tidhi 2001 ilaa 18 aynu ku jiro xasuuq ayay geysatay magdhow baana looga fadhiyaa dadka shacabka ah in ay u geysatay xaggay ka geysatay 2 iyo 3 dhacdooyin oo ONLF ay geysatay oo ka mid ahaa kuwii Ethiopia oo kala geysanaysay ma noo sheegi kartaa adigoo raalli ah waan kuu sheegi karaa anigu runtaa fiican gobolka nagob markii la dhaho degmada fiiq waxay ka geysteen way caddahay anigu gaar ahaan gobolkan u dhashaan kaaga sheegaya qoro waan kuu sheegaya cid walba oo garanaysa gobolka qabdaare u dhashay adoo haddaad u dhalatayna waad garanaysaa magaalada maraacata la dhaho wixii laga geystay waa la garanayaa magaalada ceel ogaaday la dhaho 2 nin ee odayaashaha ee lagu dilay waa la garanayaa cid walba way garanaysaa waa 2 nin oo la yaqaano waa ugaaslo qondhore nin la dhaho waa nin ree ugaas guuleed aweye waana caan 2 gabdhood ee lagu dilay maraacata waa la garanayaa taasi rishti way wax la iska qarnaya maaha kaba soo qaad magaalada maraac qabalayga la dhaho 7 kilomitir buu jiraa maraacato waa la garanayaa 14 nin oo sheekh cabdikariin ku jiray in lagu dilay waa la garanayaa in wax la iska qariyo maaha aan kaba soo qaado magaalada qabdidahare gobolka qabdidahare caasimadiisa afridoodku maxay ku dileen aniga abtigay oo la dhashay allah u naxariis abtigay oo dhalay oo da'di hooyadii ku xigtay ah oo luqowa iyo magaalada bartankeeda ku dileen ciga ardoon bay magaalada qabdidahare bartankeeda ku dileen baniin maxamed cabdullaahi oo baniin loo yaqaanay bay magaalada qabdidahare ku dileen dadka ayaa dilay yaad ii sheegi kartaa intaasoo nin baan ku tiray gabadha maraacata ku dhimatay ee maxamed gaab ugaas maxamed gaab ninka magaalada qabdidahare ugu gaaban weye waa da'dii ka yareed waa gabar ree ugaasa gabar ree ugaasa mehe waa isku hooyo weye waana kala aabba waana gabadh balang midooba uurna way lahayd inaad rayaay caddayn kara ninka ree qabdidahare intaa ii caddayn kara waayo dhibkaasoo cidda geystay waa ONLF dhegeyso odo horta gobolkeed ka soo jeedaa gobolka qoraxii baan ka soo jeedaa gobolka qoraxii baan ka soo jeedaa marka dhaweyd maxaad lahayd gobolka fiiq dhibka ka geysta waa la yaqaana hoyga agoonta ee degmada fiiq ku yaala intaasoo dabaqa dad agoomaa kor inaad artaa inaga soo inaan wixii ka gudbaan u baahanahay dhib way geysatay ima dhigi kartid anoo fikir ahaanteeda taan ka soo gudbino su-aashii baan kaaga dhaadhacaya su-aashii dambaan kaaga dhaadhacaya adigaan su-aalku weydiinaya Ethiopia xasuuqa ay geysatay one day gobolka naga wada sheegayso aad leedahay xasuuq agoon aad billi ku sheegayso meesha malqaqa la yidhaahdo 78 ma ku dishay 78 ruux one day ma dishay inaad Ethiopia dhib ma geysan kumali Ethiopia dhib badan bay geysatay no in aad laba oday hay leexinin dhageyso laba hay leexinin nuurgaab walaashi iyo oday hebel bay ceel hebel iyo ceebel hebel ku dishay baa tiri ONLF haba yaraatee wax caddayn ah oo loo hayaana kuwaas ma jiro waxa aan leeyahay ONLF haddii ay gacanteeda uu qof ku baxay
qofkaasi waxa weeyaan wax ka dhacayo iyada ku dhacay magdhow baad sheegi ee 10 jeer way bixinaysaa ninna afkiisana lagama xaal siiyo onalef waa shacabkeedii buu ahaa waxani haddii ay ku qaldantay iyadaa ku qasban in ay bixiso mag mana weydiinayso adigana kuma weydiinayso ethoobiana weydiin waa rishti taasaan ka rabaa waa dadkoodii ku khaldamaan ha naga raali lahaadaan magdhowna waan ka bixinaynaa waan oga baahannahay anigu dhibkii hore in la celiyo uma baahniy taasaan u baahanahay dadka aad sheegaysa ee la laayayna aad sheegayso haddii ay jiraan waxaan aaminsanahay in horta hore loo bixiyo magtoodii anigu waxaan kuu hubaa dad adiga laguma margsanayo walaalo dad waxaan anigu kuu ogsoonahay oon makhraati ka ahay la laayay oo si qalad ah loo laayay oon mid ahayn oon laba ahayn markii ay gacantii khaladka ku bixeen magtii la bixiyey oo welina si hoos ahaan ha loo siiye magtii reerihii laga laayay ee gacantu ku dhacday in ay eedeen oy ethoobiya dib u laysay oy tidhi waxaad qaadateen mag baad ka qaadateen shurtadii hoostana waa iska ogtihiin gabadha nuuriya gaab walaashii eed sheegayso adigaan su-aasha ku weydiin I'm sorry wuu carari saaxiibkay waa mahadsantihiin waan idin soo qabanhayaa dhibaatadu waa i jirtaa shacabka soomaalida ogaadeen iyo onalef maxsuumiin ma ay ahayn ciidan buu ahaa duur ku jira iyaga dhexdooda laga yaabaa iyagoon is ogeyn in ay surye iskaga hor yimaadaan balse waxaan idiin sheegayaa mar walba shacabka soomaalida ogaadeen iyo in ay onalef ahayd gaadhayaheeda in ay onalef u taagnayd in ay onalef tahay geeska africa iyo taariikh ahaanba la ogsoon yahay in ay tahay cidda keli eetee u taagan in ay difaacdo sharafta iyo waxaan jeedaa ninka la yidhaahaa life to ogaadeen walaale waad iga baloogan tahay ma garanhayo kolley friends bayna ahayn baan filayaa friends bayna ahayn waad igu soo darsan kartaa marka sidoo kale friends bayna ahayn marka sidaa darteed kuma soo qaban karo shukri nuur wuu soo noqday laakiin shukri nuuro walaal waxaan kuu sheegayaa waan kusoo qabanhayaa cumar yare sidoo kale friends ma nihin cumar yare friends ma nihin friends haddii aan noqono waan kusoo qaban karaa laakiin inagoon ahayn waxaan filayaa inaan kusoo qaban karin cumar yare kuma soo qaban karo walaalow waayo friends ma nihin baan filayaa marka saa darteed kuma soo qaban karay shukri waan jeclaan lahaa inaan ku celiyo bal fikirkiisu u aamino haddii aan siino haddii ay onalef siiso sidoo kale ninka la yidhaaho kamaaldiin isagana ma soo qaban karo oo dadka aan friendiska nahay oo dhan ma soo qaban karayo aanaa friendiska ahayn oo dhan ma iisoo qabsoomayo marka kusoo darsadaan odhan lahaa waan kusoo qabanhayaa shukriyow waan kusoo qabanhayaa waana kusoo qabtay marka su-aal aan ku weydiinayaa haddii aad shukriyow su-aashan ku weydiinayaa waxay tahay haddii aad baan kaaga mahadcelinaynaa soo celintaadii su-aal weydii waxa ay tahay qof aad garanayso ama dadka aad sheegayso haddii mid ka mid ah magtii la siiyo qofkii laga dilay maxay kala kulmi lahaayeen bay adiga kula tahay si publica haddii loo siiyo yaa siinaya marka magdhowa onalef haddii gaala wayba dile danba kama laho waa kii dhintaba waa soomaaliya haddii ay onalef qof dishay oo qofkaasi la ogaado ethoobia caqabad noocee uu kala kulmi lahaa markaad xaqiiqda ka hadasho waddankeena horta onalef waxay dishay waan kuu sheegay ethoobia waxay dishayna waa caday magaalada qabdahar labadii nin yani target dhaliishan kuu sheegaya
onalif waa la aqoonsan yahay laakiin fiiri onalif kuma soo laabanayna kuma soo onalif ha igu soo celin onalif magaalada qabdahar gobolka qabdahar labadii nin ee ama maalinta jimcaha u asteeyey inuu nalka 24 saac helaan laba nin oo reer qabdahar ahayn waa laba nin oo Itoobiya dishay baa loo aqoonsan yahay waana weyna dileen waana xaqiiqo weey taaso deeq cabdiraasin ragii dilay Itoobiya ahayn waana nin u dhashay qabdidahar waana nin jimcada xoreynta ogaadeen kamid ah waan ragga ugu aragtida dheera uguna fikir dheera runta xaqiiqda in la isku sheegaa yaa muhiima aan kaaga soo gudbo su'aashaadii onalif hadday magdhow bixiso magdhow onalif loogama baahna ee waa rag ilmaadoradood ah waa rag tolkooda ah oy si khalada u dileen hadday dhahaan naga raalahaada waa looga aqoonsanayaa waana raaligelinta waa la qaadanayaa ma aqoonsan yihiin inay raggaasi dileen baa muhiimadu tahay adiga haddaad aniga i disho oo nin ogaadeenna ama Soomaali galbeed anoo fikirkan ogaadeenimo maba aaminsani anigoo nin ogaadeena oo dhashay magaalada qabtaan maba aaminsaniba ogaadeen wax la dhaho Soomaalinimo iyo Soomaali galbeednimo wax la dhahan aniga aaminsana haddaad dhahdo in adeer raali how si Soomaalinimo u raali how raali baan ka ahay taasana anigu aaminsana haddaa la dhaho raali how raali waan ahay laakiinse ma aqoonsan yihiin dhibkii dhacay inay geystaan raaligelin ma ka bixinayaan taas isweydiina okay walaal waa mahadsan tahay laba qodob baa mid walba in yar jecelahay inaan kaaga noqdo horta midda ogaadeenaya anigu ma aqoonsani mana rabo aad leedahay waxaan ma kaagama baahno adigoo raali ah kaagama baahno in aad tidhaahid waan aqoonsaday oo onalif ama dadka halka ku jiro ama dadka magaca cidda looga baahan yahay waxa weeyaan cidda iyadu rabta mustaqbalkeeda iyo dalkan magaciisa iyo jiritaankiisa ummadan cidaale weeyaan haddii aad adigu tiraahdo aniga aynugu soo celin waa ayo ogaadeen anigu waa runta ogaadeen maabka ay samaysay reer galbeedka iyo ingiriiskan u aqaanaa ee deegaanka idin dadka ku nool ogaadeen maaha inaad raacinta ka dhaxtiro waa runta maabka ee ingiriisku sameeyay ee reer galbeedku sameeyay ogaadeen waan u aqaanaa laakiin Soomaalida ku nool ogaadeen ma wada ogaadeen ba ilaahay baan ku dharin runta taa ka sheeg ma wada ogaadeen ba aan isku diidanahay dadka ku nool hadda fiiri degmada la dhaho gobolka fiiq yaa ku nool ama gobolka ime yaa ku nool qayb kamid ah waa ku nool waa runta ogaadeen way ku nool yihiin degmada fiiq war adigu isqabadsii warniyaan bal adigu isqabadsii juqraafiga waxaa la yiraahdaa ogaadeenaya iyo ogaadeen ku horta magacan ma isqabadsii adigu dadka meesha dadkii magacan bixiyay ee reer galbeedka ahaa ma ogaadeen bay ugu talagalay inuu ku noolaado mise waxay ahayd buqcay ilaahay ummad badan oo Soomaaliyeed ku abuuray qabiilkan sheegaysa ma isaga magaca keensaday oo la baxay inaad waa runta dadka ku nool boqolkiiba 60 waa dadka ku nool waa ogaadeen Soomaalida garan fiiri gobolka fiiq dad badan oo ogaadeen baa kula degan gobolka city dad badan oo boqolkiiba 100 ogaadeen baa degan gobolka liibaan boqolkiiba 100 dadan ogaadeen baa degan Soomaalida garan intaason gobolka tigtiga boqolkiiba 100 dadan ogaadeen baa degan seed iga dhadhacsinaysaa dadka ku nool deegaanka odil waa wada ogaadeen laakiin dhulka maxaa loogu magac daray ogaadeen ya loogu magac daray dadku ogaadeen maaha ogaadeennimadana inaad eray adu unbaa tirtanaye dad aanan tirtanaynin baa jira ee dadka walaala Soomaalinimo deeqda Soomaali galbeednimo deeqda walaal Soomaali galbeed u dhageyso magaca sheegay taas waa magaca reer galbeed bixiyay su'aashan kaaga gudbo su'aasha xagga qurbajoogtan kaaga gudbaya waxaan jeclaan lahaa inaan fursad siiyo walaal dadka kale dad baa meesha jooga waqti dheer hal su'aalan ku weydiiyo qurbajoogta arrintii qurbajoogtan kaaga dhadhacaya xagga onalf inaga saar iyo dadkan iyo Soomaali ogaadeen iyo waxaad sheegaysaa inaga saar hal su'aal baan ku weydiinaya adiga ma ka maqlaa waxaad sheegaysay aniga adigu soo celin haye
qurbajoogtu wa'ayo qurbajoogtu wa'ayo qurbajoogtu dad badan adigoo oo kale qurbajooga adigoo kale beri qurba joog haddaad waa raadisay sax adigoo kale haye waa runta anu qurbajoog waana qurbajoogtu wa'ayo dad badan oo on elef taageera oo Yurub iyo Mareykanka ka tegay baa tegay oo magaalada tigtiga tegay gobolladoo idilna maray miyayna qurbajoogeen raggaasu dhaliil miyaynan lahayn ma fahmin wiilashii diyaaradaha lagu keenay eletriya laga keenay qurbajoog maaha waa dad waddankood yimaaday waa dad waddankoodu u soo halgamayay baan anigu arkaa inkasta oo dad ku dabagabanayeen laakiinse qurbajoogtu caddaani hirmooge iyo idaaja iyo raggan tegay baan anigu qurbajoog u arkaa adigu fikir ahaantaada qurbajoogyaad u aragtaa caddaani hirmooge qurbajoog maaha miyaa walaalo qurba joog waxaa la yidhaahdaa waxaa weeyaan qof walba oo dalkiisa dibaddiisa ku dhaqan weeyaan waa haddii aad erey rabto erey bixin qurba joog muxuu yahay waa qof kasta oo dalkiisa dibaddiisa ku nool dal uu meesha ku dhashay meel aan ahayn ka baxsan oo ku nool weeyaan taasaa qurba joog la yidhaahdaa haddii aad tidhaahdo wanaagooda iyo xumaantoodana iyadana waa option labaad weeyaan marka anigu waxaan aaminsanahay in yar ninka jamhadda on elef taageersan qurbajoog inuunu hayn baad u aragtaa adiga oo qurbaha ka tegay soomaa aniga qurba joog baana walaale waana taageeraa on elef caddaani hirmooge qurbajoog maa miya war ilaa intaan oo kale waraaba kuu soo dhameeyey caddaani hooge marlayd baa kaaga baxay may su-aal inadeer waa nin inadeerkaya waa su-aal baan weydiinayaa waa sax weeyaan laakiin waxaan ku yidhi qurba joog qof kasta oo dalka dibaddiisa kusoo maqnaa ayaa qurba jooga aad baan kuu salaamayaa maxaad qoraxayso oo maxaad qoraxay baa iga dambeeya aad baad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsan tahay waa ku mahadsan yahay shukri nuur waxaan filayaa si fiican buu caawa u hadlay aragtidiisana wanaagsan yahay run ahaantii ceeb kuma leh fikirkiisa uun buu dhiibtay waxaan soo qabanayaa ninka la yidhaaha cabdinaasir guuldoon waa sax weeyaan hadduu sax ku yahay balse waxaa ka horeeya samiir baa ka horeeya samiiro miya mees waa samiir qofkaasaa ka horeeya dumar iyo rag mid uu noqdaba qofkaasaa kaa soo horeeya marka mudal samiirow السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. aad baan xaaji fildom ku salaamayaa barnaamijka aad daadihinayso iyo dhammaan akhyaarta ku daawanaysa iyo inta dib ka daawan doontaba ma garad si fiican midda labaad barnaamijka wixii ma taqaanaa dadku macnaha markay hadlayaan waxa reality-ga ah ee macnaha macna samaynaya unbaa laga wada doodi karaa macnaha ani aragtidayda waddanka haddii aan laba kelmadood ka soo qaado wiilka walaalkeen arrimihii uu ka hadlayay waddan intaasoo sannadood dagaal uu ka dhacayay oo halgan uu ka socday meesha lagu dhexalgamayaana meeshii dadka shacabkii ay ku noolaayeen ay tahay walaale waxaan jeclaan lahaa wiilkaasi in badan buu kolley toobigii buu naga saaray toobigan waxaan jeclaan lahaa inaan dib ugu soo noqono adiga oo mahadsan bal waxaynu dib ugu soo noqonaynaa xaaladda gobolkeena iyo dowladda Somali State iyo xaaladaha hadda ka taagan eed moodo in la isla qabsan la yahay xagee salaadu iska qaban lahayd isleeda adigu si aynu dib bal qodobkii ugu galgalano inaan dib ugu noqono صح ولا لساسا في عمر أبيش كيجينا كبحن ورنتها لكن مدة مهمة دان كلا وحي هايدون يركاسي وحي أمان تيدا الشيء معناها إن قصاريه وغير عبد دقال ما وكنت المامي بنين أو كلام عدي الشيء بنين بسوق عقاب دد بدنا أجرنا يعني إنه يقول سوا دتكي معناها لقل ضيها أبو قصارها سوا يرابع كسو قبقبين يا تاس مدة مكتب يلو دنيا واسوق قابين يا مكتب ميل بيلي ده وعيل أسحريه ولقي جميستي هدو كوي ما ضو مجمع بحية مكتب واحد بحية ضد الشعب كا أو أسحريه مكتب واحد نملي هلو مجرد في عن لو أنا أقول لحد أنك تقول بس هذا ماشي عايز كقبص هذا هاي كنتي صلاة ماشي عايز كقبص هذا هاي وح معروفة ويه وحال قلنا هاي ولا لا وضمنا أفريكان كأهور لن الدولة أي كتيران
marka la isku wada daro waxa la dhaho dimuqraadi qaarna maba lagu soo hadal qaado oo maadaama ay og yihiin dimuqraadi inaysan ku dhaqmin ma sheegaan qaarna way sheegaan balse afka oo laga sheega mooyaane kuma dhaqmaan sababtu waxay tahay marka madaxweyne kaste oo afrikaan ah marka la sifeeyo ceebtiisa ugu weyn ama dhiishiisa ugu badan dictatori baa lagu tilmaamaa ma garatay si fiican dictatori marka ummadan ama dawladadan dadka ka soo baxaya ee isbedbedelaya wada dictatori ma noqonayaan wadar iyo nin midkee waalan baa layidhi waxaa sababaya oo dictatori keenaya dimuqraadi marka la leeyahay dad ha ku dhaqmaan lamber kow dadku waxa weeyaan waa inay lamber one dadku horta waa inay sabooltinimada ay ka baxsan yihiin oo dad gaajaysan aysan ahayn si fiican ma garatay si fiican lamber labo dadku waa in ay cilmi leeyihiin aqoon ay leeyihiin maxaa yeelay marka gaajada laga baxo waxbaa la bartaa waxbarashaduna qaab dhaqanka iyo kala dambaynta ayay aasaas u tahay si fiican haddii gaajada laga baxo waxbaa la baranayaa midda saddexaad ee soo gala sidana waxay tahay wixii waa inay dimuqraadiyadu waqti badan ay kolba tallaabo kor usoo qaado ay soo shaqaysa one day dimuqraadi laguma samayn karo oo ka awow geelu waa isgeeda baraa ee waxaan la dhaxlo marka ugu dambaysa ee dimuqraadi la gaadhayaana waxay noqonaysaa marka dadku ay wada madaxweyneyaal noqdaan ama wada mas-uuliyiin ay noqdaan nin waliba uu naftiisa keliya uu mas-uul ka noqon karo hogaamin karo si fiican laakiin dad gaajaysan aqoonna aan lahayn waxa weeyaan mataqaanaa haddii la yidhaahdo freedom baa tihiin xaaji freedom oo haddii la dhaho okay waayahay sacaabkii dawladdii cusbeed free baa tihiin baa la yidhi xitaa madaxweynuhu wuxuu yidhi war madaxayga kubad ka samaystaa oo garoon ku ciyaara tiina waxaad moodaa in ay keensatay qabiil qaniina xaafad ku duusha dawladdii halka ugu weyn ee ka dhaxashay waxa uu noqday in ay iyagii mag intay islaayaan ay mag u kala qaado oo maalinba intay laba isdisho oo suuqa isku eriyadaan kulka isdiilaan ay yidhaahdaan dawladdii aan mag u doonanaynaa sheeko noocaas hadda socota dawladdiina ay dhaafiyda magtoodii niyow arrintaasi waxay ka maaragtay ay ka qaloocatay baan anigu odhan karaa waxaa la yidhi lugna baqo ugu taagnow lugna dirir ugu taagnow baa la yidhi dawladda jileec fara badan bay muujisay qaabkii dadka ay u ballan qaaday bayna isku dayday dadkuna middaa ma xamili karaan bahashii aan garanayna efayaan biiro markuu nin walba waxa weeyaan caawa buush kulul la galo mirqaanku wax kaluu u sawirayaa cid uu ka cabsanayo iyo cabdi ilayna aysan jirin qaab kala dadka dhalinyarta ay u wada fikirayaan ma garatay si fiican waxaa la rabay in xoogaa dadka mataqaanaa bal inta waxaan lala qabsanayo oo isbeddelka la dhadhaminayo inay dawladdu oda dhacmase u kala sarreeyaan baa loo kala guraaye waxa weeyaan mataqaanaa iyada oo dabacna muujinaysa haddana dadka aan mataqaanaa waxa weeyaan dhurwaay u dhankii lagu eryaaba bannaan laga dhigin ee dadka laysdaba taxo markaan taalayaa laysdaba taxo macnaha wax la hakiyo dawladnimadu ay muuqato iyo inay gacan wax qaban kartaa jirto si fiican aniga malihi dadka dulmi ha lagu dilo lagu baalkeeyo laakiin dadkii inay waxa weeyaan shoobaro iyo waxa weeyaan mataqaanaa taa haddaan ka soo gudbo walaalow dhibta labaad waxay ka jirtaa dadkuna aan la yaabanahay waxay u fahmi la'yihiin magac baa beryahan aad loo bidhaansanayaa haddaan soo gaabiyo oji waxaad moodaa in mataqaanaa dad ay jiraan wax kale kasab ka dhex samaynaya waxaa facebooka ka buuxda waddankayga in la kala qaadqaadayo oo magaalooyin loo kala sheegayo waxa weeyaan iyada oo mar walba aan arkayno dhagax malaamiga seexda dhagax hala daadiyo qabri bayaxada hala xanibo harooreys hala xanibo waxa weeyaan mataqaanaa warjigjiga bando ha lagu soo rego waddooyinka hala gooyo waxaasoo dhan baan aragnaa waa la soo dhaafay iyadoo waxaan arkaynaa la leeyahay oji meeshaad ku aragtaan dadka hala laayo hala dilo oji haddaba dadka waxaan siinayaa tusaale magacii qurba joogta haddaan usoo laabto yarkii markii dhawaad waxaas kaga dhexlaaqmay soo hadalqaadka qurba joogta intii wanaag wadda lagama hadlayo qurba joog waa la yaqaana waa qof aan waddankiisa joogin laakiin wixii saamayn leh unbaa laga hadlaya haddaba dadka saamaynta leh dadkan bal in waxa weeyaan ay inay fikiraan loo baahan yahay nabadgelyadu nin walbay dan u tahay aniga oji baan ahay
dhallinyaradii waddankan aanu wada nimidoon hebel iyo hebel u garanayo kuwa wax soo qoraya gacmaha haysaysana waa wada joognaa aniga oojiya haddii dad dila ay ku baaqayaan ani may dilaan aniga ibraahim maxamed cabdullaahi faarax oo oojiya baan ahay ilaa maalintaa dhashay ay garanayaan magaalaan ku wada joognaa way soo wici raydisi anaa wici ruuxaasaan u baahanahay wallaahi inaanan daqiiqad kale u qaadin markuu iga tago qolkiis tagana life buu gelayaa wuxuu leeyahay qarbi xal xanimo oojida hala laayo anigu isii dilo oo dhaw ibraahim maxamed cabdullaahi haba waa dilay idinkuna qaybkiina ku filaada war dadkan iyo been yaa la isku sheegin ma garad marka waxaad leedahay dadka faraya in ay laayaan dadka gudaha jooga haddii ay run sheegayaan annaga la joogna ama reerka reerana leeyahay hala laayo ooji ilaan inta gudaha joogta ma aha waxa weeyaan meel walba sida halkaa loo wada joogaan u wada joognaa hadday run sheegayaan oo hawshaasi lagama maarmaan tahay in awji la laayaay aniga adreyskayga wada yaqaanaan meesha ku noolay waan wada joognaa ani hayga bilaabaan marka dadkaas ha dhahaan fulayaatiin aniga ibraahim iyo ooji wixii meeshan joogay waa tirtirnay nabadgelyaa ku noolnahay sigaarkaan bufta haynaa waxa weeyaan hawshiina waa gabteen ha dhahaan dadka canantaan laakiin nin fulistam qaadanaya waxa weeyaan raaxaysanaya dad dhibaato soo wada maray oo walaalo ah waxa weeyaan shakhsi waxa weeyaan weligeedba nin dhagar qaba ah waa la arki jiray nin waxa weeyaan wax soo bareeyo iyo nin xabad ku dhufto oo dambiila waa la arki jiray hadalkooda ugu badan ninka noocaasi hadduu life-ka soo galo waxay ahayd oo dowladday dadka dhalinyarada naga laayay talaabaha laga qaada maxaa yeelay annaga waqti xaadirkan waxa weeyaan geed walba in gubtaa waa hoos taalla dhintayadii kalaa naga fara badan halganka aanu diyaar garoobaynaa naga fara badan dalka iyaga weli xor ma noqonin iska daawiil dhalinyare habar kama maarana maanta qof shacab ah oo waddankaa u dhashay oo aan ka maaransannahay ma jiro marka ninka inuu wax hagaajiyo doonaya ha ka hadlo dadka iyaga maxay ku dhimanaya maxaa wiil hebel lagu dilay talaabaha laga qaado si kii kale dad layn lahaana ugu wax qaato laakiin waxaa jira in dhibaato fara badan ay jiraan oo xuduudihii dagaal uu ka socdo waddanka gudihiisa dagaalka dad fara badan ayna arag oo dalka gudihiisa ay rabaan in ay dhibaato ka dhexdhaliyaan isu soo dhaweyntii baryahan dambe dadka ay ugu horeyso ama ugu horeeya ururka ONLFna ay rabaan in ay kala faquuqaan aduga aragtidaada dadka noocaas ah ma dad laga tixsi qaadan karaa mise waxa weeyaan dad kanaynu hadda sheegayno ee odhanaya halalaya dadka iyaguna kuwii agtooda joogay aan leynhayn iyo si fiican weeye anigu runtii niyo horta arrintaa waxaan u arkaa waa runtaa oo dhibaatooyin badan baa waddanka ka jira mid annaga dhexdeena noo dhaxaysa iyo mid marka la fiiriyo dhinaca waxa weeyaan mataqaanaa annaga iyo dadka deriska aan nahay ee oromo iyo innaga inoo dhaxaysa runtii haddii aan kala qaado arrintan annaga iyo dadkan deriska hadda waxaan ognahay ayaamahan intii ugu dambaysay tunugeeda waxyaaba badan baa ka dhacaya dhalinyarada ama dad badan waxay soo qorayaan dadkii annagana matalayay meeye waxaanad moodaa xoogaa ina aysan dhinac kale wax ka fiirinaynin oo ah wax haddii uu beelbeel iyo dagaal qabiileed ku sablaysan yahay annaga maanta meeshii ama lagu guulaysan jiray runtii weligeen khatar hadda ka hor ninkii macnaha nabadgelyadan iyo wax marka laga yimaado la sheegayo jabhadda soo dagaalamaysay khataraha ugu badan maanta khatarta dul taalla waa laangebi ka lalmata maanta waxay qarka u saaran tahay guul wixii loodhan jiray sida oo kale waxay qarka u saaran tahay guuldarro guuldarrada waxaa keeni kara marka waxyaabo aan ku habboonayn in ay ka qayb qaadato marin uma laha in ay ka qayb qaadato tusaale dad baa maanta islaynaya waxaan aad u arkay oo facebooka haystay ama jabhada noqota ama ciidankii baalka ha noqday dadka annagana matalaamay dagaalka galaan haddaan su-aal ku weydiiye ma waxaa dagaalamaya waxa weeyaan mataqaanaa ma dowli baa loo dagaalamaya mise qabiil baa dagaalamaya maxaan ku tilmaami karnaa okay qof walba wuxuu u arkaa qabiil baa dagaalamaya wixii kale haddii ay gacmo hoose ay jiraan waxa iyaguba ay u qarinayaan oo ay haddii lacalla macnaha maamul oromo
ama wax ka soo baxaya lama magraska oo kale ay jiraan waxa ay u qarinayaan bay qabaan annagana that's why haddii aan wax ka geysan karno wax nina la dhahayo waxaasan annagana waa macnaha ani aragtidayda weeye haddaba hal diidaysaa mama soomaaliya waxayd hal diidaysaa geed ay ku xoqoto ma weydo dadka wax qarbudaya ama dadka doonaya in wax la xumeeyo wax kasta oo ay arkaan dhaliile u samaynayaan ama isku dhacyay ka abuurayaan waxay jecel yihiin in qabiilaadkii isku dhaco waxay jecel yihiin in si dawli ahaan oo kale alla iskugu dhaco arrimo noocaas ah waxaasoo dhanna wax annaga dan noo ah ma ahan annaga dariiq aan indheer garab mooyaane waxa weeyaan beydgaabku uusan arki karin baa noo jeexan oo ku soconnaa maanta okay su-aasha ugu dambaysan ku weydiinayay waxay tahay khatarta aad is leedahay ururka oo alalafi uu ku soo wajahan tahay ama guusha aad is leedahay waa ay ku taagan yihiin muxuu yahay adigoo soo koobaya aan jeclaan lahana in ay group ay ka dambeeyaan inkastoo aan jeclaan lahay maxamed qorraxay inuuna friends ila ahayn oo haddii uu blog iga saaran yahay ama friends uga soo darsado sidoo kale maxamed faarax waan kusoo qabanayaa maxamed fayax waan kusoo qabanayaa hayee ku soco mudan adigoo raalli ah okay haddii niyahow aan mataqaanaa waxa weeyaan mataqaanaa guuldarrooyinka ugu badan ee ku iman kara kow jabhadda intaasoo sano soo dagaalamaysay ama jabhadda xoreynta dalka ogaadeenaya haddii maanta dadka ama maamulkii hore ay isku dhex milmaan khatarteeda leenahay maxaa yeelay hal fikir baa laga yaabaa inaan waqtigaa wada qaadano ama aan waxa weeyaan ay mataqaanaa ay ku dhex macnaha waxaa soo geli kara ku dhex milma markaan leeyahay dad badan way fahmayaan baan u malaynayaa amaawiirtooda macnaha in ay gaar u ahaato waa lagaba maarmaan guuldarrada waxa weeyaan guulaha ugu badan ee ay gaareenna waxa weeyaan kow waxaa ka ah heshiiska ay la heshiiyeen maanta waxa weeyaan etoobiya waxa uu sababay col hortii baa hub la samaystaa jaanis iyaga ku xidhan halkaa jaanis baa iyaga ugu filan guuldarro iyo guul heshiiskoogu wuxuu uu keliya oo noo muujinayaa ina uu jaanis siinayo nabadgelyo oo ay isku abaabulaan oo col hortii baa hub la samaystaa baa la yidhi waddankooda dhammaan waxa weeyaan mar walba dadku waa dhintaan jabhaddu waa baabaadaa ciidan baa dib loo abaabulaa jaanis waxay heli karaan dadkooga ay wax kaga dhaadhicin karaan magaalo walba iyo tuulo walbana waxa weeyaan ciidan ka muuqda iyo dad ka muuqda ay ka samaysan karaan haddii haddaba intaas rag isku raye rag isgaadaye wax rag kaa galan rag kaa gal baa la yidhi cadow aad u ba'anna waa leenahay oo inaan horey loo hubi jirin oo shidaalka maanta waddankeena laga soo saaray la dhibciyey awal wax madmadow ku jiru ahaa intaasoo milyan oo abi isku hayo waxaa habeenkii lagu seexiyaa shidaalka waddanka ogaadeenaya haddii la doonayo marka in aan gono ama aan waxa weeyaan rag la waxaysano waxa weeyaan arrinta loo baahan yahay ee la rabaa waxay tahay ina aan mid nina ayna muran kaga jirin etoobiya intay ayr cod kuu qaado haddaan 100 jeer guulaysanna waa ku kaa dhihi doontaa allahu yaclam balse lagama maarmaan waxa weeyaan maanta heshiisyada aan doonayna lama geli karaan baalkii dowladdan oromiya maxaa yeelay wax badan baa jira tigray waad ogtahay waxa ka dhex jira dhabar jabin uma ay baahna marka taas waxay iyaga laftooda dan ugu jirtaa oon cidna isweydiinaynin maalintii arrimaha xaliyaan iyaga iyo inagu isku nimaadna iyaga arrintooda laba daran mid doora iskaga badnaan doontaa rag wax walba ka gorgortami karay noqon doonaan maanta waxaysan ka gorgortami karin oo jabacadda ay dagaalkeeda garanayaan iyo soomaalida xabaddeeda yaqaanaan orama waxaysan kula gorgortami karin maanta wax ay berri kula gorgortami doontaa marka waxa haddii jabacaddu ay ku fikirayso waa guulaysanayaan haddii laakiin ay mataqaanaa iska sugaan inta ay arrimahooda soo xallinayaan oo waxa weeyaan 2 sano kadib oo cod qaada la iska sugo annagoo sidan ah waxa weeyaan aan rag iswajahno guuldarradeenu aad bay u dhowdahay samirow aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan iyo afkaarta caqligalka ahaa ra'yiga saliimka waan kaaga mahad celinaynaa in aad anaga daawadayaasha iyo dibka daawadayaashaba aad la wadaagto waqtigaa ku wacanaado aad iyo aad haddana waxaan soo qabanayaa xamdi xarago dadku waxa ugu saaxarkeedu waa
ha idhaafin ku dhaafi maaye ha imaamurin kuna maamuli maayo ha ila tashanin kula talin maayo caqiidada iyo intii kale hoos bay ka gashay saaxiibow ama saaxiibey waxaan idhahdi sorry haddii aan saaxiibay yahay xamdi xarago dee ma yimid qof dumara mise qoraga mooye ma waxaa tahayba guuleyso naas qabanayaa guuldoon ayaan soo jiiday saaxiibkay blogga waa iga qaaday aan maraynayaa waa iga qaaday wuu soo socdaa waan filaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin afkaartiina wanaagsan mudane asiyaa saforki welcome السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبان كوسام يا عبد النور أديك يا أصحاب تكوتشرتا مرقي أوري كلا قيب قادنا هي برنامجك حقيقة وفي عندنا ممر العوية ولا دور محا أصبع مالمان اللي يصير هذا بقول أكسنت هاي أنا وقت بدن كلا قادم هاي وحنا نعاو ما قرنا هاي لكن هو الوقت ويرين شرتي عاوات وحاتر ودوا فرنتا باش ونوال انتو هل كرو هل هي هاني هو عاو waxaa jira waxba soo socda special promotion بعاو السعودية jira ma malayn waxaa jira ay promotion ba jira caawa promotion يا waxaan rabaa inaan anigu ku soo koobo Cabdi Nuur oo laba qodob aan ku soo koobay waxa weeyaan marka koowaad waxaan rabaa inaan tacsi u diro dadkii uu ka geeriyooday wiilkii dhalinyarada ahaa ee u dhashay waddankeena ee maalinka dhawata geeriyooday halkan xamdi xarago sorry saaxiib aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa waan ku soo dhaweynayaa sorry aad iyo aad baan hadda ku garanayaa xamdi xarago soo dhaweyn wanaagsan ka soco kaama kala goyni saaxiib marka koowaad waxaan rabaa Cabdi Nuur inaan tacsi u diro dadkii ehelka uu ka geeriyooday walaalkeen Allah u naxariistay wiilkii maalinka dhawata geeriyooday Rabiic ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo xaqiiqatan waxaan isleeyahay waxay ahayd geeri ayaan darro ah oo laga waaqsan karo oo xilligan wiil Soomaaliyeed oo walaalkeena oo dhalinyaro ah oo dadkii waddanka u bixi u soo koreeyay inuu geeriyoodo ahaad mayna ahayn waliba gacan inaga dhaxleen telefoonka ka dhacay marinaya baabuur baad waday ilaahay aad accident u gelin ilaahay waa nabad qabtaa waan marinaya waa noo qaba bahalka waxa iga soo dhacay telefoonka GPS ماشي وحنا يصل دعاي ما دام نرجعنا لكن هذا وان استنيش كي وانت وهذا ما في عنا هاي اوكي ما شاء الله بركة وهرب عبد النور انا كنت مع وجيرياسي هاي جيري عند الراح انه ويل كاس دلنيرada walaalkeena wadana gacanteena ku geerido mayna ahayn xilan xaadirka waxaan ognahay cadow inaynu leenahay hal cadow aynu leenahay oo dadkeena ugu xeereysan ee inaga aan ahayn xilligii marka inuu cadowgeenaas dhiigga Soomaaliyeed ku daadanaya mooyaane dhiigga Soomaaliyeed ku daadanaya diridhaba dhiigga Soomaaliyeed ku daadanaya shiniile dhiigga Soomaaliyeed ku daadanaya tulu guuleed maanta waxaynu nahay hadayna sabnimo iyo islaamnimo iyo walaalnimo iyo dhiig Soomaaliyeed u jiro waxa ay dadkaasi wax allaale wixii gacana aan qaban karo aan qabanno dadka inagoo dagaalka la galo inagoo dhahno u doonno xuquuqaya u noqono inagoo dhaawaco wixii ka gaarsiin karnaa deeq iyo hil iyo hoo gaarsiino inagoo kuwii soo qaxay aynu biyaha ka waraabino oo u gurmano qabow marya ka sino wardhan walba waxay ahayd maanta inay noo taalay ahayd dad waxa la oran jiray nin waxa dhinacii qoyan yahay dhinacii maqalal waxay ahayd maanta inaynu dhinaca walba aynu maanta hawsha u gurminahay nasiib darro inaan dhexdeena aynu maanta waxyaalahan loo joogin ka fikir ma ahayn marka mid koowaad waxaan leeyahay geridaasi Allah u naxariisto wiilkaas laakiin waxay ku dhacday dulmi iyo xaq darro ahayd inay dhacdana ma ahayn waan laga waaqsan kari lahaa waxaan laakiin isleeyahay dadka ka dambeeya maalin walba wiil dhalinyaro inuu macnaha geeriyoodo haddaan la soo saarin dadkaas ee muska dabada kula jira oo ognahay anigu haddaan hadda maanta joogo aan dhihi lahaa waa hebel iyo hebel xaqiiqa haddaan dadkaan la soo saarin maalin walba geeri waysta cuni sababta wiil dhalinyaro boolis oo ciidan ammaankiisa ku leeyahay markii maalin walba dhagax lagu cayrsado ee dhagax lagu dakhro uusan haysan horumar uusan teegaas iyo macnaha maxaa la oran jiray dadka suntan dadka ilmaha ka indhayso wax isaga celin karo xataa gadaal isaga difaaci karo uusan haysanin waxyaalahan bullet proofka xataa maxaa la dhahaa bahalkan dhagax la isaga dhigay uusan haysanin kuwa mintii loogu talagalay markuu wiilka booliska haysanin
laba waddan baa u furan in dhagaxa asaga lagu dilo u dhinto iyo inuu xabad isku isaga rida ruuxa caydhinhaya marka waxaan leeyahay nasiib darrada maalin soo dhacaysa maalin walba dhalinyaro dhagax loo soo dhiibahayo dadka ka dambeeya waan ognahay ee muska kula jiray magaalada Chichiyo ku nool waan ognahay inta marka waxaan dhigaa kuwaasi hala kala daraba waxa weeyaan dadka qurbaha jooga waagii rajiimka cabdi ilay jooga waxaan ka baranay kuwa qurbaha nala joogay maalin walba intii nolosha ka dhacday ee meesha mashaqaystayaalka ah dadka shahaada jira daroogaystayaal inay intay dagaan oo suud tahay oo deynteen iyo suud iyo xabad tahay intay qaataan jee tagaan maalin walba loo dhaantay oo la dhaho qurba joog dadna ay dhaanteeyaan oo loo dhaanteeyo markiiba ay daroogadii iyo hore ka galaan ayaguna hawshii ay u socdeen hore ka galaan waxaa hadda soo baxday qurba joogta cabdi ilay qurba joog la mida oo wada dhiigga gacanta kula jira oo meeshan jooga oo odhanaya hala islaayo tolaaye war heer hebel hala dilo may iyo kuwa kale xag ka soo booday oo dhihi tolaaye meherka nagi hala dilalayo waryaha warkaca war heer waxaa ka badda gala dadka noocaasa ayaga qurbaha jooga maanta war heer hala dilo ku haya ninka Minneapolis jooga iyo ninka Switzerland jooga iyo ninka magaalada Edmonton hadda anigu aan jooga ee hawsha ku haya hadduu asagu heer hebel inuu dilo rabo intuu ummadda nabadda fidmaynayo muddo kuwa heer hebel magaalada jooga xaqada hadduu run sheegay waxay ahayd inuu dagaal wax dilo inuu kuwa asagu la joogay maqaaxida uu life kaga jiro kuwa heer hebel la joogo inuu kuwa ka bilaabay ahayd uu laayo run sheegay laakiin waa beenaale ilaahay gooyay oo raba inuu dadka masaakiinta ee ehelka ee walaalaha ee islaamka ee Soomaalida ay wada dhashay meesha ku wada nool ee halka tuulada ayada dhanba 5 kilomitir square ku taal ku wada nool inuu rabo inuu xabad isugu dhibo ku fidmayo asaguna kabtanu jawaab gaarina uu wataa fridge-kuna uu buuxaa isaga islaantiisa meeshan ku baafaa marka baraaya ma qaban ninkaas marka dadka daalimiinta noocaas ee nolosha ka dhacay ee qurbaha jooga ee dadka dabka isugu dhiibayo waxaan ilaa ummadda ilaahay ka qabto dadka Soomaaliyeedna waa inay fahmaan inayna dar ugu jirin nin qurba jooga oo dab isugu dhiibaya ama xabad iyo colaad ku kicina waa inay fahmaan xaqo waa inay fahmaan inta waxaan ilaa dadka qurbaha jooga su'aal aan ku weydiiyo waxaan jeclaan lahayn hadda adiga marka dhaw promotionka uu soo dhamaanaya horta oo waxay saacadu ku sii socotaa waxoogaa bay ku sii socotaa waxaan jeclaan lahayn inuu dhamaado oo 2 iyo 3 qof oo aan ku soo koobno hadda kadib promotionkan aan soo koobno oo dadka daqiiqadaan siino laba su'aalood baan jeclaan lahaa in aan ku weydiiyo mid waxay tahay ONLF maxay ku guuleysan kartaa maxay ku guul dareysan kartaa waa adigoo qodobaynaya mid walba haddii ay 2 iyo 3 Somali State iyo ONLF maxaa lagu kala fogeyn karaa dhaxdooda 3 maxaa shacabkan lagu midayn karaa oo dadkan aad moodo inay ka tirada badan yihiin in ay Ethiopia gacanta ku hayaan in ay haystaan facilitator ama wax adigu ay haystaan waxayna inagu haysanin haday dhan walba noqoto xilligan lagu jiro ama ha noqdo power guud oo Ethiopia dhexdeedii ahayd ama tiradooda ha noqoto ama dhan walba marka adigoo ku horeynaya ONLF positive iyo negative labadaba aad baad u mahadsantahay Cabdinuurow mid ONLF tan ku horeeyo waxaad ogtahay ONLF waxay u soo baabaaday u soo dagaalamaysa muddo fara badan waa dadkeeda ONLF waxay ku guuleysan kartaa dadkeeda oo midooba oo hadduu Ilaahay ku samagol yahay ogaado inuu hal cadow leeyahay waan soo gaabin waxay ONLF ku guuldareysan kartaa dadkeeda oo la kala qoqobo ayada oo hadduu Ilaahay ku samagol dadkeeda saameyn ku dhex yeelan weydo dadkeeda laga qoqobo ayagii dadkeedii oo la sudido inay nabad ku sheekaystaan oo labada wiil ee walaalaha ee shalay la kala xidhay la kala ciqaabayo la kala celinayay cadowga la isugu sheegay la yiri hebel waa ku dilahay adna hebel waa ku iska ilaa lagu yiri in waqti haddana ay isku arkaan dantoodii iyo mustaqbalkoodii iyo warheerkeena iyo ehelkeena iyo dadkeena iyo deegaankeena maxaa dan oo inay isdihi waayaan taasaa guul darraa xaqiiqatan taasaa guul darraa waxaad ogaataa waxyaalaha hadda dadka qayb ka shaqaynayso ee qabyaaladda ee cadowtinimada ee dadka Soomaaliyeed Soomaalida lagu macnaha la isku diraya waxay qayb ka tahay halgankii dheer ee ONLF ku jirto iyo midka hadda ay ku jirto in lagu fashiliyo qayb ka mid ah ku jira sababtoo nin walba dawladda Somali State Cabdi Mustafa Maxamed Umar hogaamiyo waxay guul ku noqon kartaa dadka shacabka oo midaysan ONLF waxay guul ku gaari kartaa dadka shacabka oo midaysan haddii labada mid walba hadduu midka kala waayo ma guuleysan karto dawladda Mustafa Cagjar iyo ONLF maxaa lagu fogeyn karaa ama lagu midayn karaa ONLF dhexdeeda mise ONLF iyo shacabka may waad ka soo gudubtay taas waan ka qaadnay waan ka haynaa positive iyo negative ONLF labadaba waa Somali State iyo ONLF okay Somali State iyo ONLF
waxaa lagu midayn karaa waxaa hadda ka hor jiray ama haddaba jira isfahan aad u wanaagsan madaxweyne aqoon-yahana dhallinyaro ah fahmahaya dadkiisu wuxuu soo baaba'aya meesha jooga waxaa kaloo xaqiiqatan meesha onalif jooga rag hogaamaha oo cabqariyiina oo siyaasadda geeska afrika muddo badan xoogaa u ah inay hadda onalif hogaaminayaan ayna og yihiin talooyinka ay siiyaan mustafa iyo shaqo talooyinka ayagu ay qaban hayaan iyo hadday u arkaan dulduleel inuu ka iman hayo dhan walbana inay gufeeyaan ayagu isku dayayba onalif jooga onalif iyo marka mustafa waxaa laysaga horkeeni karaa ayadoo waddanka intii amni xumo laga dhigo wadada ujeedooyin kale leh oo Ethiopian-nimo aaminsan intay waddanka nabadgelyo xumaan ka sameeyaan ay dhahan mustafa wuu fashilmay oo dhahan mustafa wuu fashilmay deedna kadib sababihii mustafa fashiliye laga dhigo onalif buu heshiis la ahaa oo Ethiopia jaajus muuqu u hayno dadka waddanka xidhay iyo waxaan mu soo xidhin taasoo onalif iyo Ethiopia yaa mustafa la soo keeni karaa mustafana lagu fashili karaa bay ka dhigan tahay shacabka iyo haddaan ku soo noqdo wuxuu shacabkanu ku guuleysan karaa iyo dowlad si fiican shacabkeenu wuxuu ku guuleysan karaa iyo dowladda mustafa horta waxaan rabaa dowladda mustafa inaan u mahadceliyo waxay u tageen dad la gumeeyey oo gun ah oo la isugu dhiibay oo weliyo saddex isxirahayaan oo wax kale aan aqoonin oo imaan lahayn oo jaad iyo caleen iyo balaayo mooye wax kale aan aqoonin baa la dhex geeyey dadka intii badnayd oo dabeecad oo habeenkii markii la wada qaylahayo aan loo xataa kuwa qaylahayo aan nabad ku sheekaysanayna ilaa ay dad u tashanayaan mooyaane ma qabiil ha u tashadaan ama xisbi ha u tashadaan qolyo kale oo habeenkii lagu marqaamaa marka meeshaasuu tegey in dhallinyaro oo nadiifa weeyaan inuu dad ka dhijiyo inuu cadowga Soomaaliyeed ka farxiyo inuu nin Soomaaliya ka dhijiyo muuse diyaar u ahayn laakiin hadda say ku wadaan waxay ku wadaan inay fashiliyaan deedna laba mid uu ku dambeeyo inuu noqdo dhiig gacmaha la galo oo imaan laawayaasha waxbad madaxa kala wada dhaco deedna la dhaw waxbuu laayay iyo inuu fashilmo oo meesha iska casilo dhaw war meeshan dadkan Soomaali ninkii laayo baa xukumi kara waa ma isaga tagi meelaha degteed inuu dhaho labadaas bay ku wadaan hadda say ku wadaan labadaas bay ku wadaan waxa ku wadaan waan ognahay waa dadkii rejiimka la soo shaqeeyay waa dadkii ururo fashilma ka mid ahaa waa dadkii meel ay qabsadeen waayay ee qurbaha iyo meelo badan ka tegey dadka noocaasa uma tagayaan jijiga inay danta ehelkooda iyo danta duruufahooda iyo shakhsiyan ka shaqeystaan waxay u tagayaan dad ehel inay fidmeeyaan inay dowladda mustafa ee nadiifta ah dadka Soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin tallaabooyinka qaadi lahaayeen weli tabarta yar ee lagu faraxsan yahay soofa inay fashiliyaan bay rabaan xaqiiqadu waa sidaas waxaad ogtahay dowladda Soomaaliya haddaan example u soo qaato farmaajo markii la doortay aad baa lagu faraxsanaa rag Soomaaliya ku faraxsanaa dhinac fiican buu xusay shacabka Soomaaliyeed baa mideeyay maal iyo muruq baa ninkii waxaa loo arkayay hero Soomaaliya loo arkayay waxay qaadatay in lagu fashiliyo ma taqaana gaangisiyaa loo soo xareeyay oo hebel waxaad ka dhigataa agaasiye madaxtooye hebel waxaad ka dhigataa isku xidhan madaxtooye hebel waxaad ka dhigataa ra'iisul wasaare 10 gaangis baa geesaha laga dhigay sidii baa lagu fashilay farmaajo uu fashilmay wuxuu ku fashilmay xaq xuquuqda iyo shacabka shaqooyinka u dirsan Soomaaliya uu ku fashilmay mustafa cagjar sidii baa hadda ku socdaa 10 kan dhardhaar oo geesaha kaga jira la taliyaha walba hebel la taliyaha arrimaha noocaas la taliyaha walba hebel dadka noocaasa ee geesaha kaga xayran waxay ku wadaan madaxweyne mustafa inay fashiliyaan xaqiiqada waa sidaas haddaan la afgaran hadda la garanin maalmaha kamid ah la ogaan doonaa waa nin nadiif ah aqoon-yahan dhalinyaro dadku ay jecel yihiin ruux Soomaaliya inuu ka dhijiyo dhigiisa daadii aan diyaar u ahayn ruuxii maalin laga dhijiyo ma ka bixiya iyo soo booqaya maalinkiiba ka xun oo dulmiga ku geeriyo ka xun laakiin say ku wadaan inay fashiliyaan iyo inuu dhig gacmaha la galo labadan bay ku wadaan haddaan laga qaban waxaan rabaa baaqiga ugu dambeeya inaan u soo jeediyo ummadda Soomaaliyeed walaalaha dhalinyarada joogta magaalada Jigjiga walaalayaal waxaad qoys walba ahow laandheeraha Soomaaliga ee qoysku isku sheegay iyo laandheeraha isku sheegay ahow laangaabka isku sheegay ahow waxaad laandheera ku tahay Soomaalinimo waxaad laangaab ku muqani oo magac ku tahay markay nin walba oo Soomaali ah uu garabkaaga yahay Soomaali tabaad laandheera ku tahay yaa wax kula qaybsan kartaa dad kale qabiil ka laandheeraysan ma jirto qabiil ka xoog badan ma jirto qabiil ka adkaan karo ma jirto Soomaaliya hawsha soo xaqiijisay haddii qabiilo kala adkaan hayaan Soomaaliya xaqiijisay marka durbaankan walaalayaal qabiilka ee la tumahayo intaad joojisaan Ilaahay ka cabsataan Soomaalinimo walaalnimo qowmiyadnimo aan wax ku raadsano tulu giiloodo 10 kiiloomitir u jirta magaalada iyo dhigu daadanaya waxba ma tari karo innagii baan isku dhaxdana ku mashquulsan mooyaane dhigu daadanaya maalin walba oo dhalinyarada la xasuuqaya waxba ma inuu qabanin kama fikiraysan waxa ugu qaban lahayn kama fikirayno Ilaahay intaan ka cabsano kuwi dhulkeenni la qaatay dadkeenni ugu leeyahay waxba u qaban lahaayeen intii nabadda ahayd ilmaha ay inoogu saxayoonayeen nabadda ay haweenku inuu yacruurtu inoogu seexanayeen yeenan dab gelinin nin walba waxaad ogaataa dabka sidoo gurigaagii hooyada iyo guriga walaashaa iyo gurigaagii buugiga
ninkii dab shiday aad ma iyo aad joogtana mudane cabdinaasir guuldoon afawarqi aad iyo aad baa u mahadsan tahay promotionkaagii waxaa lagu leeyahay dadka commentisku waa uu dhammaaday promotionkii marka sidaas iyo guul iyo gobonnimo ayaan kuu rajaynhayaa waana kaaga mahad celinaynaa aad iyo aad baa mahadsanta mudane aad baan kuu salaamayaa saaxiib salaamullah aniga mudan mudanayaal iyo marweyn aad iyo aad baad u mahadsan tihiin kamil diin niyahow iyo ninka la yidhaahdo isoo qaba muun odhan baan malaynayaa commentska muu soo dhigay isoo qabo maxamed qoraxay walaale niyow friends bayna ahayn baan malaynayaa active ima noqonayo ma garanayo cilladu halkay ka taagan tahay waxaan soo qabanayaa ninkii ahaa odayga maxamed fayax ninkaasaa soo qabanayaa wuu tegay baan marinayaa promotionkiisi ninkii odayga ahaa baa la tegay waxaan filayaa qayb ka qaatay niyo sheekh kamaaldiin niyo adiguna iima tihid bal igu soo darso friendska igu soo darso iima tihid saaxiiba kama nihin baan filayaa marka waa sidaa la sheegay oo ugu dambeeyey mudane afawarqi cabdinaasir afawarqi barnaamijkii ugu dambeeyey uu sheegayay qof waliba waxa uu ku yahay geesi waxa uu ku yahay landheere waxa uu ku yahay mid laga cabsado waxa uu ku yahay dadkiisa weeyaan qofku haddii uu dadkiisa kala qaadqaado oo kala qoqobo marka ugu dambeysa da-da ka yar iyo da-da ka weyn xageeba markaa bal isoo codso marka dee adu soo codsade marka niya ma garanaya weli active ima aha in aan kusoo qabto active ima aha mudane qoraxay marka qofku waxa uu wanaag uun ku leeyahay uun waa marka uu isagu dadkiisa uu ku tiirsan yahay uu kor u fikiro uuna hoos u fikirin markaasuu yahay qof wuxuu doonaba qaban kara laakiin haddii uu ku kala fikiro waxaan xaqiiqa oo caawa halkan laga shanqariyey in ay dadka qurba joogta ee qabiilka ku hadlaya eelaha warhebel dilaay warreehebelow reehebelaayaay inay beenaalayaal ay yihiin oo waxba uuna ka jirin oo dad shacaba una isku dirayaan waxa caddaynu noqoto caawa akhyaartu ay soo bandhigeen oon ka faa'iidnay kuwa la jooga iyagu ha laayeen kuwa halkaa jooga kuwa maxay ay qaraabo yihiin ama dadkooda meesha jooga kolkay kuwan laayaan iyagu ha yidhaahdeen khatar baanu nahay oo meeshii meel ka fog baanu mid ku dilay marka tilka bitilka qolada qurba joogta ee iska wada hoose bay sanitationka wada shaqeeya saa ha dhaheen mudanaha waan soo qabanayaa ninka la yidhaahdo maxamed fayax ni oo adigana kusoo qaban kari waayay kolley ma garanayo waa promotion waa sii dhammaanayaa waqtiga waxaad moodaa inuu aad iyo aad usoo koomayo sida aan sheegnayba aniga ayaa sii wadanaya qof intaan kasoo qabanayo uu barnaamijku u yahay active marka koobaad waxaan ku celinaynaa mudanayaal iyo marwooyin in la iscafiyo oo maanta meel looga soo wada jeedsado qadiyadeenan 1 minute ama daqiiqada gudahood aynu ku dhici karo god aynaa weligay kasoo bixin muddo koobanna aynu ku guulaysan karo oon ku gaadhayno guul aynaa weligeen gaadhin muhiimaddu taas weeyaan waxaynu ku guul darraysan karaa innaga oo waxyaabaha maanta qurba joog ku sheegto ay wado dadka nolosha ka dhaxsan ee welina u badan fulayiinta waxaan dhihi karaa waa fulayiin ninku haddii uu qayliyo uu yidhaah talla ayay hognayay reerkanagiiba la dilay ay asxaabtii waxa balaaya uu tiri horta ninkaasi labo ayuu qofkaas ku darsaday kow horta waa bakhayl oo haddii reerkoodu maanta yidhahdaan qaaraanna si aynu dagaal ku gallo waxaa laga yaabaa inuuna siinin labo qofkaasi waxa weeyaan waa fulay oo dagaal ma rabo reerkooda in uu la gale ee uu gelinayaa waxa uu rabaa in uu ka seexdo haddii ay run ka tahay cidda meesha joogta ha ka bilaaba isagu marka dadka fulayiinta ah ee dadka walaalaha ee isdhashay ee isdhalay nolol wadaaga ee deris wadaaga ee wax walba oo adduunka dushiisa 90% wadaaga in ay isku diraan arrintaas dadka ka hawshaas wada waxaan leenahay diiday dhaha isku daya in aad midowdaan oo noqoto noloshiinu
iyo jiritaankiinu iyo dantiinu hal mid ah in ay noqoto shacbigan ku dadaalo taas. maantana aad ka faa'iidaysataan jaaniskan aynu haysano ee gumaysiga Ethiopia ina siiyey ee ah in aynu dalkeennii iyo dadkeennii la kala qoqobay aan meel uga soo wada jeedsano oon cadowgeennii soo jiraanka ahaa maanta uu fursadda yar ina siiyey in aan meel uga soo wada jeedsano oon gacmaha isqabsano waa arrin maanta loo baahan yahay. beenaalaha iyo fuliga iyo bakhaylka qurbaha ku badan hadalkiisana aan la dhagaysanin ee laga yaabo maalin inuu $20 intuu u diro 3 maxay u yidhaaho hebel iyo hebelow ree hebel inaga dhiciya saas iyo saas tuuladeenii degmadeenii kusoo durkayaan dalboob. ragga nooca odhanaya ee qurbaha ku badan dadka shacabka gudaha joogo waa in la diidaa, dadka la joogona waa in aad u aqal celisaan. waxaan filayaa waqtigu waa iska soo kooban yahay. waxaan jecelahay ugu dambeyn in aan u tacsiyeeyo guud ahaan shacabka Soomaalida Ogaadeniya, khaas ahaan in aan tacsi gaar ah u diro dhacdooyinkii iyo xasuuqii ka dhacay sida Tuli Guuleed oo ugu dambeysay Diridhaba xasuuqii ka dhacay iyo Liibaan xasuuqii ka dhacay iyo dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada Jigjiga. waan uga wada tacsiyeenaynaa, waxaana ilaahay uga baryahaynaa intii dhimatay in uu gacanta ka xaq daran ay dishay inuu ilaahay waafajiyo maalinta qabriga su-aasha lagu weydiinayo, kana dhigo ahlu janno. kuwa dhaawacana in uu u bogadhayo, kuwa ehelkoodii ay ka baxeen in uu samir iyo iimaan ka siiyo. dadka shacabka ahna waxaan leenahay war cadowgeennu waa hal mid ah, war danteennuna waa hal mid ah. ha looga soo wada jeedsado meel, ha la go-aansado in laga baxo dhibaatadii 100 sano ina soo haysatay ee Ethiopia inagu haysay, tii iyadu gacanteeda inagu geysanaysay iyo tii inaga dhexdeena ay ka abuuraysay. intaba aynu meel uga soo wada jeedsano, aynu midowno, aynu hiil iyo hoo la garab istaagno maamulkeena Somali State, aynu hiil iyo hooba la garab joogsano, aynu wanaagga ku taageero, xumaantana aynu ka nahayino. wanaagga aynu ku taageero, xumaantana aynu ka nahayino, aynu ku diidna waxa xun, waxa wanaagsanna aynu ku taageero. aynu soo dhaweyno naftoodayaasha iyo madaxda jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ee qaara dalka gudihiisa gaadhay, qaara ay ku soo fool leeyihiin. aynu soo dhaweyno oo walina aynu ku soo dhaweyno gacmo furan iyo midnimo, kalgacal iyo farxad aynu ku soo dhaweyno, sidii aynu u noqon lahayn dad jira oo dadka deriskooda ahaa u babacdhigi kara inaga fara badan, inaga dhaqaalaha badan, inaga facility-ga badan. si aynu ugu babacdhigno aynu samayno mudanayaal. inta dhageysanaysay iyo intana daawanaysay iyo inta gadaal naga daawan doontaba waa aad ku mahadsan tihiin. ballanteenu waxa ay tahay ilaahay ka cabsigii, shacabkeenna aynu midayno, cadowgeenna aynu aragti kaleeta u lahaano, maamulkeenna aynu garab siino, aynu wanaag ku garab siino, xumaan aynu ka qabano, jabhadeenna aynu wanaag ku soo dhaweyno, inaga oo ah dad wada dhashay walaalo ah, dantoodu hal mid tahay. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.